أنا صومالي 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 وأفتخر أنا 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 صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر صومالي وأفتخر مقديشو هي القمر هرقسة هي الأغر كسمايو أحبها مقديشو هي القمر هرقسة هي الأغر كسمايو أحبها صومالي وأفتخر مقديشو هي القمر هرقسة هي الأغر كسمايو أحبها صومالي وأفتخر أنا صومالي 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 أنا صومالي أنا لنحني رغم الأسى لن نشتك سنستمر سينتهي خلافنا صومالي وأفتخر لن ننحني رغم الأسى لن نشتكي سنستمر سينتهي خلافنا صومالي وأفتخر أهمية وين إن إصلاحيه أو ريره لحظة الإصلاحية إلهي سبحانه وتعالى أهمية وين بوئي لي وأنا أساس آد وين إسلام كدحديثة وهذا هدي غيرك وهجاجو وجريه أي هجاجان وحافظه أي هجاجان وأردتك وضمنه أي هجاجان إن أي مجتمع دن هجاج هيو ضدك دن إن أي مارتي وده هجاج هيان إن مسلمين تدن أي هجاج هيان ولا إلهي سبحانه وتعالى سجوني وله اللي في سورة الأحزاب مارتي قيسسك يجبدها مارتي لقبه iyo maartay dadka islaamka ay isqaba wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma inna allaha kana latifan khabira ay ku xusa guriyina ayaadka ilaahay ku xukuma kitaabka ilaahay fi aya yutla في بيوتكن من آيات الله وكتابك إلهي قريها وحال الربا إن لقو دقو أو لقو حكمو كتابك إلهي في بيوتكن من آيات الله والحكمة مفسرين توحي رادان مده روا كتابك الله والحكمة وسنة النبي عليه الصلاة والسلام مركا دردارنك أقوين ودردارنك إلهي سبحانه وتعالى قريها إن لقو دقو كتابك الله سبحانه وتعالى يسنة النبي عليه الصلاة والسلام هاي من آيات الله وأي القرآن وقرآن كوي والحكمة وسنة النبي مطهر كأوي قف كستو مسلم وحوي يهدي ربكوين بأيو إنه خير كراعه أو كتاب كي سنة الراعه أي ولا لي الربعين اللي قد داله وكد داله تعليم يا برشاد الدين إسلامك وكد داله جرجيس إنه قسم نفتيس يا أهل كيس المسلمين تحضر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي قد داله على الربا نصيحة يو باركتي dadka taladu waa ka dhaxaysa hadii rabku idmahayo masaxada lagu dadaalo qodobka labaad walaalayaal waxaan rabaa insha Allah ta'ala dardaaranka labaad wuxuu noqon doonaa aayada quraanka ah oo ajiibka badan ya ayyuhalladheena aamanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum ha ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay haruurihiina iyo hareerihiina cadow bay idin marka takhayal u fiirso عرورتاد عدو سيكو نقون كرتا ولا ليال عرورتاد عدو مكون نقون كرتا إيجا جوابا
sideebay caruurtaadu cadow kugu noqon kartaa? waa su-aal jawaabteeda aan adinka idiin daynayo oo adinka aan idinka sugayo insha allahu tacaala. bal qof kastow dib ugu laabo haddii rabbi ku idmayo caruurtaadu jawaabteeda adinkaan idinka sugaya. waa caruurtan aad jeceshahay, waa caruurtan aad xanaanaynaysid. waayahay ee dardaarankayga labaad waxaan u dardaarmahayaa haddii rabbi ku idmahayo waxa weeye dadka isqaba waxaan u dardaarmahayaa dhexdooda inay islaaxiyaan, kelmadda wanaagsanna ay ku dadaalaan. kelmadda wanaagsan in ay ku dadaalaan ayaan maaragtay u dardaarmahayaa. sababta walaalayaal kelmadda wanaagsan dadka way islaaxisaa, qalbiyaday maaragtay u dejisaa, ilaahay subxaanahu watacaala waa ka farxisaa. waxa weeye wahuduu ila ayibi min alqawli waquluu linnaasi xusna waqul licibaadii yaqulu alatii hiya axsan. kelmadaha la wanaajiyo walaalayaal, oo reeraha isqaba kelmadaha markasta ha laisu wanaajiyo, oo hadalka ha laisu wanaajiyo. ilayhi yascadu alkalimu alayibu walcamalu asaalixu yarfacuh. alam tara kayfa daraba allahu mathalan kalimatan طيبة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ma garateen walaalayaal? marka kelmadda wanaagsan khayrkaas iyo barakadaas oo dhan baa ku jira walaalayaal. kelmadaha la wanaajiyo. nabiga calayhi salaatu wasalaamna kelmadda wanaagsan walaaley iyo abbaayoy iyo xabiibtii iyo qaaliyey iyo maaragtay ladanay iyo sharafey iyo ubaxey qalanjooy, kelmadaha wanaagsan maxaa waxa weeye waa wax wanaagsan weeye. walkalimatu tayiba sadaqatun. maaragtay gabadhii cunay kuu soo diyaarisay markaasaad leedahay cunadaan oo kale waxaa kan la yidhaahdo cid diyaarisa lama helo. yaa cid diyaariso maaragtay aad bay u macaanta. ya salaam ya salaam ya salaam ku dheh. xataa hadday cusbada kasoo ilowdo waxaad tiraahdaa midaan weligeed ba wax kariyay lama arko. kelmadda u wanaaji, maarata hadalka hala wanaajiyo. walkalimatu tayibatun sadaqa buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam. marka walaalayaal nabiga waana kelmadda wanaagsan waxyaabaha naarta naga badbaadinahayo weeye. sida nabiga calayhi salaatu wasalaam maaragtay uu lahaa ittaqu nnaara walow bishiqi tamar. maaragtay tamratin or naarta ka magan gala oo maaragtay iskaga xijiya. maaragtay jeex timirana allah ka dhige haddaadan helaynin. faman lam yajid fa bikalimatin tayiba. qofkii aanan helaynin inuu wax sadaqaysto kelmadda wanaagsan ha ku dadaalo. guud ahaan kuwa isqaba iyo guud ahaan muslimiintao dhan kelmadda wanaagsan walaalayaal aan ku dadaalo. xataa haddii rabbi ku idmayo beenta mar ay bannaan tahay baa jirta. xaajiyadaada haddaad been u sheegto oo tiraahdi dadka waa kaasa adaa ugu sarreeya maaragtay xataa maaragtay waa wax wanaagsan weeye. iyo mar haddii laba qof oo muslimiina aad maaragtay aad hagaajinaysid. laysa alkadibu aladi yuslixu bayna annaasi wayaqulu khayra wayatamanaa khayra. maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam saas oo kale waa asagii lahaa laa yaxilu alkadibu ila fi talaatin yaxditu rajulu imra'atahu. haddii rabbi ku idmahayo 3 beenood 3 qolo haddii rabbi ku idmahayo keli ah. wax yar ii kaadiya qolaa iiga shaqaynaysay alaab. oo bannaan waxaa ka mid ah haddii rabbi ku idmahayo midda lagu islaaxinahayo ninka iyo naagta isqaba. ninka iyo naagta isqaba dhexdooda haddii wixii lagu islaaxinayo xataa dhib ma lahan maaragtay in lagu qanciyo. marka walaalayaal dardaarankayga ugu dambeeya oo aan u dardaarmahayo qoysaska waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu aad uga digay dirbu ku ilmahayo shaydaanka iyo sidoo u doonahayo inuu qoysaska u burburiyo. shaydaanku iyo ibliis waxa ugu daran oo uu ku dadaalo waa qoysaska inuu burburiyo. sababtoo ah markuu qofku uu single noqdo ama iskaabolo uu noqdo waxa furmahaya albaab shar baa ku furmahaya. albaabkii sharka ayaa ku furmahaya. haddii rabbi ku idmaayo soomaaliduna waxay ku maamaahdaa fadhi uma yaallo. kii wax furay fadhi uma yaallo. soo saas lama dhaho. macnaha fadhi uma yaallo falkiisii ku laabay. falkiisii ku laabay. falkiisaas waa maxay? ya waa iskaabulonimadii hore iyo shukaansigii iyo gabar cayrsigii iyo maaragtay cidladii iyo haddii rabbi ku idmaayo dhibaatadii iyo shar oo dhan baa ku furmahaya. marka qofku markuu keligiis uu noqdo waxaa kan la yidhaahdo albaabkii shar oo dhan baa ku furmaya. nabiga calayhi salaatu wasalaamna waa ka digay arrintaas. ina ibliisa yadacu carshahu cala almaai uma yabcatu saraayaahu faadnaahu minhu manzilatan acdamuhum fitnatan laa ilaha ila allah
ciidamadiisii ayuu diraa ibliis markaasuu maaragtay carshiga intuu maaragtay dhigto waxa kan la yiraahdo biyaha badda intuu caasha kursi dhigto ayuu ciidamadiisii diraa kan ugu dhow oo taajka uu xirahayo oo ugu maaragtay sareeya waa midka ugu fadnada badan weeye waa midka ugu fidnada badan weeye markaas haddii rabbi ku idmahayo mid baa wuxuu oranaya qof baa haddii rabbi ku idmay khamri soo cabsiiyey mid kale wuxuu oranayaa dambigaasaan qofkaas soo geliyey midka laakiin midka ugu dambeeya markuu yiraahdo ma taraktuhu hatta farraqtu baynahu wa bayna imra'atihi kama soo taginin ilaa aan kala furo asaga iyo xaaskiisii qaala fayudnihi minhu kaas ayuu soo dhaweynaya wayaqulu ant nacam anta wayaqulu wuxuu leeyahay nacam adiga iskale adiga ahay adiga iskale marka walaalayaal arrintaas ha laga digtoonaado qof kasta waa inuu maaragtay ogaado waxa kan la yiraahdo in asaga iyo xaaskiisa ama asaga iyo ninkaaga uu idinku dhex jiray ibliiskaas doonaya reeraha inuu burburiyo haddaba arrintaas maaragtay ha laga digtoonaado oo maaragtay la isu sabro biidnillahi albaari ilmawlaa haddii la isu sabri waayo furiinku iyo kala tagu waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala baneeyey ayaduna maaragtay waa dariiq laakiin waa inay noqoto wax laga fiirsan waayey ama dariiq kale la waayey ama wax kale lagu xallin waayey waa in ay noqoto waxa ugu dambeeya oo maaragtay la isticmaalo laakiin waan xanaaqay iyo waan kacsanaa iyo waan nacay iyo waa ka dhaxarkay iyo waa imaqli weyday iyo xagguu maray iyo waa masayray sheekooyinkaasoo dhan sheeko baraley baa la yidhaahdaa ha laga digtoonaado ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinla xifdiyo kulligeen dardaarankaygu intaas buu noqonahayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinku wada xifdiya dhammaanteen falyatafadal mashkuuran xifdiyo dardaarankaasina dad qaatay allah naga dhigo nafi waa tii naxash kortee dadow nuurka attaqwa maqlo nuxnuxiyo tawxiidsado cibaadada nuuc waliba niyado oofiyo نستغفر الله iyo nabiga aan ku salina insha Allah ta'ala barnaamijkeena ila talibaan si director inoogu bilaabo doono insha Allah ta'ala walaalaha dhamaantiina soo dhawaada kuna soo casuumo walaalaha kale ee idinka maqan insha Allah ta'ala barnaamijka caawa waxaan ku dahfuro doonaa walaalaha aad iyo aad fara badan baa ii soo dirsaday mar horeeto ila taliyaal oo aan la sugayno sheekha الله سبحانه وتعالى ha noo xifdiyo sheekha walaashan waxay leedahay marka ugu horeyso assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waan idin salaamay adiga iyo sheekhaba waxaan rabaa inaad ila talisaan sheekh Xanafiyo waxay leedahay waxa aan sheekaysanaa wiil markiisii horeeto balwad lahaa oo khamriga cabi jiray hadda wuxuu igu yiri waan iska daayay in arrinkaas oo dhan waa ka tala baxay bay leedahay inuu guursado oo rabaa marka arrintaasi ii sheeg waxa aan rabaa inaan idinkala tashto bay leedahay inaan iska daaya mise waa guursadaa bay leedahay waa mahadsantihiin arrinta hal igala taliyo salaamu calaykum waraxmatullah fadal sheekh عليكم ورحمة الله وبركاته هدير بكويد مهيو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كبيرا قبضاس وحن نرتو كعب سنة هي ولا لها إن أدعو عيسان إلهي سبحانه وتعالى خيرك هو فتشيو إلهي سبحانه وتعالى مصلحته هو فتشيو إلهي سبحانه وتعالى الدنيا آخرة وحي خير وجر إلهي سبحانه وتعالى هو فتشيو إلهي سبحانه وتعالى خير قبا هو فتشيو إلهي سبحانه وتعالى قور ونكسنا هو فتشيو يرحمك الله إلهي سبحانه وتعالى كون حريصته وحكى لي هذا آمين اللهم صل على محمد انت اسك قدال برنامجك إلى فائدooyinkiisa waxa kamid qof markuu tala doonayo oo loo duceeyo waxa laga yaabaa 200 iyo 50 qof oo muslimiin hal mar aamin ku tiri hada wax sahlan ma ahan marka faa'iidada ugu weyn oo laga helayo waa taas weeye faa'iidada ugu weyn oo laga helayo waa midaas weeye marka ilaahay subhanahu wa ta'ala khayrtada khayr ha dhigo ilaahay subhanahu wa ta'ala khayr qaba u furo faraj khayr qabana u furo aamin ya rabbal alamin intaas ka gadaal dadku sidaan oo kale inay kala soo tashadaan dadka ay ku tuhmayaan diinta iyo cilmiga iyo khayrka ay ku tuhmayaan waa arin loo baahan yahay sababtoo ah waxa loo celinayaa taladii kitaabka iyo sunnadii ayaa loo celinayaa gabadhaas guurka raadinaysa waxay tir wiil baan guursanayaa wiilkiina wuxuu yiri waan iska daayay wixii aan ku jiray
اللهم صل على محمد وعلى صحبه وسلم وأرين ونكسن أولا هرتا ويلك محاضرا هري وقصوا قلي ويلك قضبضا لقود دوران هيو ويلك اللي قرسنا هيو قضبضا لقود دوران هيو هريبا وقصوا هذا اللي وحنا هدير بكويد ما هيو قضبضاس أن كسو شيغني هدير بكويد ما هيو كمد أها إنو يهي ويل أهل الدين ويل أهل الدين إنو يهي وملتزم ودينة إلهي سبحانه وتعالى ما ركتي كل جن سيد النبي عليه الصلاة والسلام قبر أيا ما ركتي أتمد فاطمة بنت قيس اللي يراهده مركز وحي تري نبي إلهي دور نين معاوية أبو جهم يا أسامة بن زيد رجعس بن ما ركتي شكان ما ركتي صادوني كيبان هدير بكوي إن ما هيو اللهم صل على حجابان كبلابا gabadhaas marka nabiga calayhi salaatu wasalaam taluu siiyey oo waxa uu yiri ninkaas horta nin wax haysta ma ahan amma muaawiyatun farajulun taribun la maala lahu nin maal iyo xoolo haysta ma ahan wa amma abu jahm ninka abu jahm li yiraahdana farajulun darabun lin nisa'i wa nin ushiisa garab ku wato gabdha garaacid badan waa ninka garaacid badan walakin usamatu bin zaid laakiin waxaan kugula talinayaa usama بن زيد بانكولا تلينهيا إمام النووي مركو أرنتاس حديث كاس هدير بكو إنما هيو ولما أسامة قبل كعنتو قلت المامي هدير بكو إنما هيو waxay tiri markaasaan guursadaa xoogaa way diiday Usaama inay guursato xoogaa sibay u diidaysay marka laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri taa'atullahi wa taa'atu rasuulihi khayrun laki taas baa ku khayr badan imaam an-nawawi markuu macnaynayo xadiidkaas waxa uu leeyahay amma istisharatuhu sallallahu alayhi wasallam binikahi usaamata falima alimahu min diinihi istisharada iyo talada uu siiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam Usaama uu kula taliyay waa diintii uu ku ogaaday Usaama diintiisa waxa weeye wuxuu ogaaday nabiga calayhi salaatu wasalaam wixii diin uu ku ogaa wa fadligiisa wa husni taraa'iqihi wa karami shamaa'ilihi fanasaha bidalika fakarahatahu likawnihi mawla marka nabiga calayhi salaatu wasalaam nimankii quraysh iyo ragii kala kulama taline ninkan diinta leh oo akhlaaqda leh oo dirbu ku idmahayo akhyaarka buu maaragtay kula taliyay walow ayadu ay maaragtay ay sarrabinin hasa ahaatee taladii nabiga calayhi salaatu wasalaam way qaadatay ilaahay subxaanahu wa tacaala maaragtay barakuu ka siiyey marka awalan waxa way wanaagsan tahay dadka muslimiinta saasoo kale in loola tashado waana arrin wanaagsan khayr allah siiyo gabadhaas haddii rabbi ku idmahayo waxa kan la yiraahdo marka wiilka haddii uu diin leeyahay hadda ilaahay baa maaragtay ka dhigahaya kan diin tale baa la hormarinahaya ninka lagu dooran maayo xoolo ma leeyahay keer ma yahay hadda waayadan dambe waxba bilowdayba sheeko dambe oo six bag iyo waxbayba sheegaan aan meelahan ka baranay oo meelay ka timid aanan aqoonin uma garanay meelay ka timid way weydiiyeen su'aashaas waxa six bag ay sheegay waxa la yiraahdo waa mid murqayo waaweyn oo waxa mid ka murqaha waaweyn ma dekadix maayo ka xamaalahaya wiishashka laga waayay maxamaali buu noqonayaa adeerayuusu ku ceejin baan ku yiri kaas murqaha waaweyn oo diintaada ku dooranin haddii guri lagu galiyo uu ku ceejiyo yaa ka cilmi halkaas ka qaynaysa waa dhibaato kale weeye ma garateen ilaa dumarkii waxa laga soo sheegaa bacbay tuuraan bale marka bacdu u tuurto hadduu ku ceejiyo waa balaas feeraha waaweyn yaa ka cilinahaya marka haddii rabbi ku idmahayo calaa kulli xaal waxa weeye qofka waxa lagu dooranayaa waa diinta weeye faqiir ha ahaada hadduu rabo wamaa yadri alfaqiiru mataa ghinaahu wamaa yadri alqaniyu mataa yacilu ya walillahi daru limaam axmed ilaahay subxaanahu wa tacaala maaragtay had hawdan bi dhaafee waxa la weydiiyey nin haddii rabbi ku idmahayo faqiir miyaad gabadhaada siin lahayd laakiin diin leh oo warac wuxuu ma haysto iyo nin xoolo haysto laakiin warac aan ahayn keebaa jeclaa geebaan gabadheedu u guuriyaa markaasuu yidhi midkaas aan waxba haysanin oo waracay diinta leh maaragtay ugu dhowow marka awalan waa taas weeye shardiga labaad qofku inuu yahay waan iska daayay sheeka maaha anigu khamrigii waa iska daayay iyo tan waa iska daayay sheeka maaha tawbadu waxay rabtaa caalan
si calana in loo toobad keeno adiga hadduu kugu yiri hadda xaqiiqada adigu ma ogid laakiin waxaa la rabaa wixii si calan ah oo dadkoo dhan wada og yihiin oo ummadoo dhan ay og tahay in loo toobad keeno sideedaba wixii dembi ah qofku waxaa la rabaa si calana inuu toobad keenaa la rabaa maaragtay toobadda shuruudeedaas baa ka mid ah si calana in loo toobad keeno marka haddii rabbi ku idmaayo calannimadaas waxaa kasoo dhexbaxaysa qofkii inuu siraat almustaqiim uu ku toosnaado shardiga labaad oo wiilka lagu dooranayo waa inuu yahay mid jidka ku toosan وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون marka nabiga calayhi salaatu wasalaam nawaasigi lahaa calaykum bisunnati wa sunnati khulafaa'i ar-raashidiin al-mahdiyyiin raashidiin tamassakuu biha wa'addu 'alayha bin-nawaajidi wa iyyakum wal-muhdathaati al-umuur fa inna kulla muhdathatin bid'ah waxa weeye wiilku waa inuu yahay mid sunnada ku dhigan oo sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ka muuqato oo shacaa'irta ay ka muuqato oo nuurkii iyo khayrkii iyo islaamnimadii iyo diintii iyo caqiidadii iyo tawxiidkii waa inuu ka muuqdo adigu ma tihid bakhtiyaar nasiib ma gelaysid bakhtiyaar nasiib qof gelaya ma tihid waxaagu waa inay caddaadaan ka shamsi waxaagu waa inay caddaadaan waxaani waa guur waxaani waa mustaqbal waxaani waa caruur waxaani waa haddii rabbi ku idmaahay aayo waxaani waa gabarnimadii ka tegaysa oo caruur dhalaysa awlaadda idin dhex maraysa marka bakhtiyaar nasiib ma ahan ku nasiibso ma ahan ku nasiibso maaragtay ku qadi mayside ku qabso ku qadi mayside sheekadu ma ahan waa in uu yahay wiilku mid ku dhegan maaragtay wakaasa haddii rabbi ku idmaayo qodobka kale oo wiilasha lagu dooranayo waxaa ka mid ah haddii rabbi ku idmaayo inuu yahay mid dhaqankiisu uu fiican yahay oo khuluqdiisu ay fiican tahay boqolaal baa jirta diin leh oo garku intaa dheer la eg yahay haddana aan akhlaaq lahayn oo waxay rabaan maaragtay samaynahaya nabiga calayhi salaatu wasalaamna waa amar idaa jaa'akum man tardawnahu diinahu wa khuluqahu fazawijuuhu hadduu idin yimaado mid aad raalli ka noqotaan diintiisa iyo dabeecadiisaba u guuriya wailaa tafcaluuh takun fitnatun fi lardi wa fasaadun carid maaragtay haddii loo diido wiilkaasna hadda fitno iyo fasaahad weyn baa dhacahaya marka wiilku waa inuu yahay qodobka labaad mid akhlaaq leh oo haddii rabbi ku idmaayo akhlaaqdiisu ay wanaagsan tahay waxaa ka la yidhaahdo waxaa ka mid ah inuu yahay mid hadda ragnimo leh oo caruur dhalahaya oday weynoo haddii rabbi ku idmaayo 70 jir 80 jir ah oo 5 sano kadib ay ka dhammaanaysa ama bay kasoo dhammaatayba hadda berri baad bustihiisii aad u tuuraysaa ma garateen marka taasna kula talin maayo gabdhaha yaryarka ah ee waa inuu yahay ninku haddii rabbi ku idmaayo igaar haddii rabbi ku idmaayo murqakuusa oo maaragtay waxaa kale la yidhaahdo jihaadka geli kara oo haddii rabbi ordi kara haddii la cayrsado ma garateen marka khayr allah idin siiyo insha allahu tacaala arrintaasna maaragtay waa qodob loo baahan yahay sababtoo nabiga calayhi salaatu wasalaam ummadiisa uu u dardaarmay haddii rabbi ku idmaayo dhalmada tazawajuu alwaduuda alwaluuda fa inii mukaathirun bikum alumam yowma alqiyaama ninku waa inuu yahay nin wax dhali karo waa inuu yahay insha allahu tacaala intaas maaragtay waa qodobada haddii rabbi ku idmahayo muhimka ah oo maaragtay gabadha muslimadda ah aan u dardaarmahayo ayada iyo gabdhaha muslimaadka ah oo kale waxaan u dardaarmahayaa wiilka la guursanahay inuu yahay mid kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ka yaqaana mid kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ka yaqaana ama fasiri kara ama maaragtay ugu yaraan dhowr jus oo qur'aan ah yaqaana waa inuu yahay adiladeedana horey baan usoo sheegnay marka gabadha muslimadda ah waxaan qodobadaas annagu hadda oran mayno wiilkaas ha guursanin iyo guurso laakiin waxaan siinay canaawiin baan siinay canaawiintaas nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo kitaabka iyo sunnada aan kaaga soo dooray aayadihiina waa sheegnay axaadiistiina waan sheegnay canaawiintaas qaado miisaanka iyo kafadana adigu saar canaawiintaa markaad qaadatid waxbaa kaaga soo baxaya qodobka labaad ama maaragtay tallaabada labaad oo aad qaadaysid haddii rabbi ku idmahayo oo taabadaas ku xigta waxay noqonaysaa tallaabada ugu weyn oo maaragtay ugu muhiimsan qof kastoo islaam ahna laga rabo tillaabadan waxaa la yidhaahdaa laboratory baa la yidhaahdaa su-aal baan rabaa inaan ku weydiiyo adiga gabadha ah iyo dadka kaleba daawo ma cunaysaa aan laguu soo qorinin ama daawo aan maaragtay xanuunkeedii lagaa helinin shaybaar adigoon marinin oo dhakhtar marinin daawo miyaad iska cunaysaan waa su-aashu waa maya marka waa inaad daawadaas qaadatid kaabsalkaas waa inaad qaadatid shaybaarkaas wiilka dhiig ka soo qaad hal irbad ku dhufo dhiigga ka soo qaad haddii rabbi ku idmaayo shaybaarka gee
haddii rabbi ku idmay dhiiggiisu balseeyahay sidee dhiigga laga soo qaadahaya wax dhiigga uga soo qaadaysaa daawadan waxaa la yidhahdaa al-istiqaara ilaahay baad la tashanaysa subxaanahu wa tacaala nabiga calayhi salaatu wasalaamna waxay yidhahdeen saxaabada sida maaragtay xadiiskii bukhaariga ku sugnaa ee maaragtay jaabir bin cabdillaahi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yucallimuna alistiqaarata fi lumuuri kulliha kama yucallimuna suuratan min alqur'aan bal u fiirso arrimaheenno dhan waana beri jiray istiqaarada sidii suurad qur-aanka ka mid ah waa inaad miisaankaa saartaa waa inaad loobaratarigaa saartaa waa inaad haddii rabbi ku idmay ilaahay subxaana wa tacaala aad la tashatid wax ka weyn oo ilaahay subxaana wa tacaala aad la tashanaysid ma jirto labadaada gacmood oo masaakiinta ah oo yaryar oo caatada ah oo cillaanka aad marmaraysid yaa kor u taag oo waxaad tidhahdaa rabbiyow wa kuwaasaa gacmahaygii unugu waxba ma ogi unugu waxba ma kala garanahayo adigaa wax kala garanahaya allahuma inii astakhiruka bicilmika waastaqdiruka biqudratika waas'aluka min fadlika alcadiim fainaka taqdiru walaa aqdiru wataclamu walaa aclamu waanta callaamu lquyuub allahuma in kunta taclam callaamu lguyuub allahuma in kunta taclam an taclamu ana hada almru markaasaad magacaabaysaa guur aroos magaciisi wiilkaa magaca leh ha ilahay aa uisoo dadeji ha ma garateen waxaa kan la yidhaahdo arrintaas samee oo dirba ku idmahayo ilaahay subxaana wa tacaala baad la tashatay gacmahaagii baa cirka u taagatay waxaa tii rabbi unugu waxba ma awoodo rabbi unugu waxba ma ogi rabbi unug hadda taas meesha waxaa ka baxaysa unugu reer magaal baan ahayo gabadhaa dirba ku idmaayo noocaasaan rabaa gabar guduudan baan rabaa mid bashima kuuskuusan baan rabaa ama bishi mid madow 40 kiilaa baan rabaa haddii rabbi ku idmaayo dhex yaroo dhudhuban oo sidaasaan rabaa haddii rabbi ku idmaayo waxaad moodaa odagii awowga yahay oo dukaankii haysan jiray biisi jiray haddii rabbi ku idmaayo yaanyada miisi jiray odagii ma sokortaad miistaa maxay tahay intaas eesh daqal adigu khiyaar ma lihid ilaahay subxaana wa tacaala ayaa khiyaar ka leh ilaahay subxaana wa tacaala marka wixii uu doono waxa uu yidhaahdaa inamaa qawluna lishayin idaa aradnaahu an naquula lahu kun fayakuun intaasoo kiile iyo waxba laguma doortee waxaa lagu doortaa waxa weeye diin baa lagu doortaa ilaahay labadaas xaraf weeye bas ma garateen adigu doorasho ma lihid marka warabbuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar doorashada yaa leh doorashada ilaahay baa iska leh wamaa kaana lahum lkhiyara khiyaar ma lihidin keer baan rabaa indha cadcad baan rabaa indha guudadan baan rabaa gaaban baan rabaa gabar guduudan oo gaaban baan rabaa sidii iikar iyo kooxdooda ay oran jireen qolyaha banaadirga ha gaabnaata ha kuusanaata yidhaahdaan ma garateen waxaas waa iska sheeka baraley weeye wax jirana ma ahan doorashada ilaahay subxaana wa tacaala baa tuu kuu doorahayo ogaa imise mid bootayn jiray baa dirba ku idmahayo ay guriga u gashay mid ilaahay xaalkeedu og yahay ma garateen marka bacbacdaas iyo bootadaasa la iska daayo ilaahay subxaanahu wa tacaala cirka gacmaha loo taagto ilaahay subxaana wa tacaala maaragtay xaggiisa ha loo cararo ilaahay subxaana wa tacaala idin dayici mahayo waxaad leedahay adigaa cilmi badan ha cilmigoo dhan adiga ahaya marka walaalayaal arrintaas hadda waa ku dheeraaday raalli ahaada baashii u horreysayna waa ahayd su-aalaan isleeyahay dadku dhan aa ka faa'iidaysto bay ahayd calaa ay kulli xaal taladayda u dambaysa oo gabadhaas aan siinahayo waxay noqon doontaa arrimahan soo socda insha allahu tacaala biidni illahi albaari ilmawla kow istikhaarada insha allahu tacaala inay noqoto labo wiilkaas inay hubiso horta kow waa inay hubiso wiilkaas wixii inuu ka toobad keenay oo uu yahay nin multazima oo diinta ku dhegan oo xiriir ay samayso oo ay la tashato dadka yaqaana oo eelkeeda ay tiraahdo iga soo baara gabdhaha qaarkood dirbu ku ilmahayo waxa weeye waxbay madax iskugu tuuraan beritaa wixii dhibi ka imaanaysa aabboy ninkii waa isku dhacanayo iga fur haddaa shalay baa ninkaa iswatay waa jeclahay ya iyadoona aabbaheed u geyn ba waxay leedaha waa jeclaya waa ka helay adeeryaal waa jeclaanina waalidkiin horta u geeye walaalkaa la xiriir iyo aabbaha sharaf bay kuu tahay oo waxaad tidhahdaa ninka halaiga soo hubiyo aabbe iyo walaalkaa waxay la xiriirayaan dadkii bay raadinayaan ayagaa rag ah ayagaa wixii israadsanahaya ninkii informationkiisa ayagaa soo helahaya ma garateen marka insha allahu tacaala horta wixii alla soo hubiyo ama adigu iska hubi ama ehelkaagu ha kaa maaragtay hubiyeen qodobka koobaad weeye qodobka labaad wuxuu noqonahayaa insha allahu tacaala horta bal iska arag insha allahu tacaala oo si fiican u daraasee
oo idin rabbi ku idmaayo bal iskaytus dhaho wakaasa insha allahu tacaala alla is arko nadarada sharciga ah ducada badi oo ilaahay bari subxaanahu wa tacaala sababtoo ah marka ilaahay la baryo ilaahay subxaanahu wa tacaala wax khayr qaba buu hortiina dhigaa meherka ha la badiyo insha allahu tacaala guurkana ku dadaal ilaahayna la isku xiro cabsida ilaahayna ha la badiyo beenna yaan la sheegin yaana la oranin aniga waa kaa daray waa ku jeclahay aniguna waa ka alla maxaa been la isu sheegaa waa anigu ya laba hadda isbaranaysa markaasuu leeyahay abbay waa ku jeclay markaas leedahay abbo waana kaa daran alla maxaa la isu dhigaya xalay ma seexan markaas leedahay anigaba cunno ma cuninin war maad naga daysaan hadda meesha waxa la keenay filmaanta hindiga miya meesha jilaysaan adeerayaala waxaas ka baxa haddii rabbi ku idnay xaqiiqada iyo runta iyo cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala ha loo laabto waad mahadsantihiin hadda dardaaranka iyo talooyinka waa badin lahaaye dad badan baa laga yaabaa inay idin sugayaan khayr baa idin rajaynaya asalaamu calaykum جزاك الله خيرا وجزاك شيخنا الشيخ حنفي الله سبحانه وتعالى ha ku xifdiyo sida uu kala dhigtay walaashaasi talada wanaagsan ee soo weydiisatay taladeeda waxa uu maleynayaa inay aad uga faa'iideysatay walaalo badan ay ka faa'iideysteen dadka ii soo galaya luuqa aad iyo aad bay u fara badan yihiin talooyinkana way fara badan yihiin taladan ayadana mar horeyta bay soo gaartay walaal waaye si fiican baan u warsaday waxa ay leedahay dugsi qur'aana baan dhigtaa dugsiga ayaan weydiiyey attaqwa ma ahan waa dugsi ay weekendiga dhigato walaashu waxay leedahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxa aan dhigtaa dugsi weekendiga macalinka dugsiga ayaa aad iyo aad iiga helay wuxuu taagan yahay ilaa iyo ilaaba waan ku guursanayaa la'aanta man walaa kara buu leeyahay bay leedahay walaashu ilaa heer oo indhihiisa ilmo ay ka imaadaan buu gaari aniga macalinkayga baa tahay baan iri balse sidaas ay tahay haddana muuse iga qaran xaas buu leeyahay marka waxaan iri ani adiga isma cunno oo waxa waaye ii sheeg nin xaasla baa tahay anna gabar baan ahay marka wuxuu yidhi xaaskii baan soo furahayaa buu yidhi xaaskii baan soo furahayaa waan soo dalaaqahayaa waxay tiri markaas waa macquul marka aniga dembi baan ku leeyahay arrintaasi bay leedahay oo dhankaasi ma dembiga baa iga soo gaaraya bay leedahay walaashaasi waa weekendiga dugsiga la dhigto marka fadal insha allahu tacaala sheikhuna xanafi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسؤال آدو عجيب بدن وي سؤال آدو عجيب بدن قبل أصلا ما هسنتهي إلهي فتنك هكبت باديو فتنك إلهي هكبت باديو مرك أنتاس أن لنا هي ورفتنك قبلها وبدينهن أو أن قيلنا إنه هذا وتي وحنا أرانا يعني مكتة ولاد كحنفية وأدقيه ولاد قلف سن مقرتين قبله وفتن haddii rabbi ku idmahayo meel kastana qofka ka soo geli kara horta macallimiinta quraanka dhigahaya quraan gabar ma bari karaan laftigeeda kaligeed ayadoo ah taas baa ka horeysa in la ogaado ninkaan horta maxaa u keenay gabar kaligeed buu meel ka helay marka Soomaali kasta luuq intuu la galo dhaawaa ku dhimanooya waa ku jeclahay wadnaha iga soo dhacay ma garateen horta taas ma bannaan tahay ma bannaana waana xaaraan quraankaasna lama baran karo gabadha marka waa in lala joogo waa in haddii rabbi ku idmay la saddexeeyo horey baan anagu arrinta wax badan uga hadalay macallimiin baa la yidhi Facebook ay wax ku baraan waa doobab waxba ma qabaan iska bulaa dishay markaasuu gabarhaba meel la geliya luuq ah ma garateen taas waa xaaraan wey macallinku waa inay xaajiyadiisa ag fadhido marka gabadhaha ula sheekaysanayo xaajiyadiisa waa inay ag fadhido ma garateen haddaysan xaajiyadiisa ag fadhinin mid kale waa in la soo jiido halkaana Yurub hadda gabdhihii waxa loo fatwooday oo la yiri shareerkii waa iska dhageysaan shareerkii dhib ma lahan baa loo fatwoodo ayadoo waji bannaan oo karaan iyo haddii rabbi ku idmay gabar yar oo haddii rabbi ku idmay hadda Yurub joogto biya alfardows ku qubaysata biyaha waxa la yiri biyahan macaan oo annaga lacag bana la ka siiya alfardowska biya kharaab baan ku qubaysanaa marka gabar biya alfardows ku qubaysato oo ayadoo dhanba noqotay xabad cambaayo bislaatay oo haddii rabbi ku idmay shaamba iyo kareen iyo bible lotion iyo isku soo dhufanaysa oo halkaan haddii rabbi ku idmay iska cadaatay markay macalinka u timaado kaligiis ah hadda xaaladdu bariga dhexe noqonaysaa xaaladaas bariga dhexe noqonaysaa ninkaasna waa nin la xaday weeye macalinka ah maanta ito haddii rabbi ku idmaayo inuu yiraahdo reerkaygii baan burburinayaa xaaskaygii baan furahayaa hatta shaydaankii baa ka faa'iideystay nabiga calayhi salaatu wasalaam arrintaas waa mamnuucay arrinta khalwada ah rag nin iyo naag inay gooni noqdaan nabigu waa mamnuucay calayhi salaatu wasalaam wuxuuna yiri aragtida gabadha wajigeeda la fiirinayo midda koobaad waa bannaan tahay hadday qacish kaga tiraahdo laakiin midda labaad ka jeeso haddaad mar labaad fiirisid wallahi tan waa maraysa middan hadday xaaskaga noqon lahayd waaba ku dhacan lahayd wallahi waaba jeclaadayba ya shaydaankii baa kasii faa'iidaysanaya moogtahay waa waran shaydaan oo sumaysan weeye
waran shaydaan oo sumaysan weeye marka xadaari ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim ishooda hala laabo ama macallin hala noqdo ama khayrulmacallin hala noqdo isha hala laabo ishaada haddii aadan laabin oo mar labaad aad ku celisid qalbigaagii dhibic madow baa ku dhacaysa gabdhaha muslimaadka ana walaalayaal xijaabkiina qaata shareerkiina qaata indhihiina qariya isha waa khatar weyn gabdho badan il baa ku dhacday sababtoo ah shareerkii bay ka tageen haddii wajiyadoodii bay waxay soo mariyeen wax ilaahay xaalkeeda og yahay anigu waa dhaweyto mid baa waxay igu tiri ma marsan karaa ukun kulaha ukun mid kalena waxay tiri afuqaato maxaa liidaa salir waa wax la cuno mid kalena waxay tiri ukun haddaan marsado soonku ma iga jabaya wariyaa ilaahay yaqaana dadkan ukunta marsanayo iyo afukaatada iyo qaraha iyo cambaha iyo mooska iyo cunadii la cunahayay ku shubanahaya madaxa ma garatay mid kalena waxay tiri waa xaraga jecelahay kulaha mid kalena waxay tiri waa xaraga jecelahay marka gabdhaha sidaas ah hadda wiilkay helaan bariga dhexii xaaladiisu noqonaysaa marka horta gabar yahay qaladka koob horta quraanka ma baran kartid aslan quraanka noocaas oo kala ah horta ma baran kartid sababtoo ah fitna ka imaanaysa qaacida baa jirta dar'ul mafasid muqaddam jalbul masalih jalbul masalih muqaddam dar'ul mafasid mafsadada maslaxada quraanka inaad baratid ah mafsadada ka weyn baa ka imaanaysa meesha fitna ka imaanaysa hadda ka hor waxa dhacday baa la yiri gabar baa uureysatay macalinkeedii baa uureeyay baa la yiri qisadaas unugu halkaan aan ka maqlay ma garateen si khaasana la ii weydiiyey war ma garateen haddii rabbi ku idmahayo sababtoo an nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laba qof meel khalwa kuma noqoto ilaa shaydaan baa saddex ku noqda ilaa shaydaan baa saddex kula noqda war ma garateen gabdhihiina waxaa la yidhi hadda yurub bay joogaanoo gabar keligeed baa meel degan markaasay leedahay macallin aa guriga igu yimaada macallin aa guriga igu yimaada adeer haddoo kula yimaada yaa kula jooga adiga waxaa laga yaabaa baby yara inay haysta 1 sano jir ah ama 2 sano jiro taasoo kale waa xaaraan weeye gabadha markaas macallinku wax barahayo waa inay koox yihiin oo dad kale ay la joogaan haddii kale shaydaanku baa saddex ku abu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam marka walaalayaal quraan baa la baranahayaa iyo farsamo iyo hawlo kale hadda waa aska un hawlihii weeye aheeyo waa hawlihii weeye marka insha allahu tacaala arrintaas horta qodobkaas ha laga digtoonaado waxaa soo hartay gabadhan iyo ninkan leh waa ku dhimanahayaa iyo waa ku jeclahay yaa ku yiri horta asaga jeclow horta taas waa dambi kale iyo xaaraan kale weeye ninkan macallinka ah gabadhan waa lagu amaanaystay quraan buu barahayay waa macallin waa aabbo kale waxaa la rabay inuu ka gambisto yiraahdo uu wacdiyo uu waaniyo oo uu la hadlo marka haddii macallimiintii sidaas samaynayaan hadda dhallinyaradii maxay berrito oranaysaa waa dhibaato iyo mushkilo kale weeye marka waxaa kan la yiraahdo allahuma salli calaa muxamedin wala saxbi wasalam ilaahay subxaana wa tacaala ha soo hanuuniyo allah subxaana wa tacaala dadka ha noo soo hanuuniyo fitankana ilaahay subxaana wa tacaala maaragtay ha ka badbaadiyo baan leenahay wuxuu yidhi naagta xaaskaygii baan soo furahayaa horta haddii arrintaas aad ku kacdid oo xaaskaagii uu soo furo adiguna aad guursatid adigana berruu ku furayaayo ogow adigana berrituu ku furahayaa mid kaa qurux badan buu helayaa markaad 4 dhashid oo aad isku dhex dhacdid maraq badan intaad cabtid oo aad cayishid oo haddii rabbi ku idmahayo buu mid kaloo arkahayaa yara taasuu kaa raacayaa ma garatay marka god walaal ha qodin baa la yidhi gabadhaas gurigeeda ha burburinin gurigeeda ha ku ciyaarin nabsi ha gelin insha allahu tacaala haddii rabbi ku idmahayo reerkaaga allah kuu barakeeya dheh telefoonada ka danso ugo kaasoo kale waa loo gooyaaye ugo sababtoo ah fitna meeshii ka imaanaysa waa kuu dhimanayaa buu leeyahay waa kuu ilmaynayaa buu leeyahay waxaasna waa shaydaan dadku markay ku dhimashada ilaahay baa leh geeridana ilaahay baa leh noloshana ilaahay baa leh jacaylkana ilaahay baa leh ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin laa shariika lahu wabidalika umirt ina salaatii salaadaada iyo gowracaaga iyo geeridaada iyo noloshaada intaada ilaahay baa leh subxaanahu wa tacaala qofka intiisaba ilaahay baa leh marka waa shirki weliba gaalnimo gaaraysa qofka hadduu yirahdo waa dhimanayaa iyo nabbaa iga socota iyo cunno ma cuninin iyo haddii rabbi ku idmay waa hawlo waaweyn weeye wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun marka walaalayaal xadaari arrimahaas haddii rabbi ku idmaayo ha laga digtoonaado oo maaragtay ha la iska jiro dadkuna maaragtay ha ka digtoonaadaan meelaha ay ka baranahayaan xataa quraanada iyo meelahaas aad ha looga digtoonaado oo wax lagu kalsoon yahay idan ilaahay ha noqdeen insha allahu tacala ilaahay subxaana wa tacala hana la badbaadiyo gabadhaas waxaan kula talinayaa adeer
khayr allah ku siiyo taladeedu koowaad waxay noqonaysaa macalinkaas inaad jartid dugsigaasna aad goysid haddii rabbi ku idmahayo reerkaasna sababtoo reer baad burburinaysaa reer baa meeshii burburaya nin iyo naagtiis baa kala tegahaya sababtaadayna u kala tegahayaan marka reerkaas in aadan burburinin oo adigaa fudude ilaahayna wax fiican buu ku siinahayaa mid keligiisa gabar yar baa tahay kuwa keligooda dhooban hadda meeshaan oo macallimiin adurusa dowladda dhowr macallin baan uga jeedaayo iska bulay keligooda hadday waxeelaan goosaha dambe ku qabsan lahaa marka kuwa noocaasa dhoobane insha allahu tacaala kuwaas ka barakaysa ilaahay subxaana wa tacaala ha ku barakeeyo reerkaasna insha allahu tacaala ha burburinin macalinkaasna sidaas ugu go insha allahu tacaala hadduu kusoo raadiyo ku yidhaahdo maxaad ii goysayna waxaad ku tiraahdaa waxaa kan la yidhaahdaa waxaad tiraahdaa hadda anigu reer inaan burburiyo diyaar uma ihi reer isqaba inaan burburiyo diyaar uma ihi midda kale fitnaaba imaanaysa meeshii fitno baaba ka imaanaysa zina imaanaysa zinaduna waxa kan la yidhaahdo hadda zinadii ishaa dhacday waa kaa helay iyo waa kuu dhimanaya midii kalena haddii rabbi ku idmahayo ilaan shaydaan baa meeshii ku jire waa suuragal inay dhacdo ilaahay idinka badbaadiyo ilaahay subxaana wa tacaala idinka badbaadiyo ilaahay subxaana wa tacaala idin badbaadiyo nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii arrintaas aad samaysid nabigu wuxuu yidhi qofkii nin iyo naag isqaba war gabdhow si fiican u dhegaysta naag baad leedahay soo fur sheekadaa dhegaysta naag baad leedahay dadka ku hayow bal dhagaha fura nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laysa minaa ummadda nebi maxamed kama mid aha naagta soo fur gabdhaha yidhaahda u fiirsada waciidkan nagama mid aha qofkii reer isqaba kala fasahaadiya ummadda nebi maxamed kama mid aha ummadayda kama mid aha buu yidhi afsadahaa qofkii fasahaadiya ummadda nebi maxamed kama aha bal u fiirsada xawdkii nebi maxamed baa la waaye ummaddii nebi maxamed baad waayin jannadii iyo khayrkii baad waayin shafeecadii nebigaad waayin calayhi salaatu wasalaam laysa mina man khabara mar'a calaa zawjiha qofkii ka fasahaadiya nin iyo naag waa kuwa isku darahayana waa ku jira xaawo madow islaamaha warwareega naya ninku dahab ma kuu gaday naya waxa ma kuu sameeyey naya ninka waxaas magaciisada cayri haddii rabbi ku idmaye islaamaha warwareega duhurkii marka odayaashu maqan yihiin kuwaasa kow ka ah islaamaha warwareego oo guryaha haddii rabbi ku idmaye naya alla way caato alla dhabanadeedii day alla siday waagii hore alla dhabanadeedii day waa caatooda waxba gaajaad dishay gaajaad dishay alla dharkay qabtaday alla dahab looma gadin alla sariirta u taaladay yaa haddii rabbi ku idmaye xagga waxaasoo dhan baa soo galahaya nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay hadhowtay gabadhii baa caraysan gurigiiba odagii soo geli asalaamu calaykum jug waa xinaaqsanta war maxaa ku dhacay haddii rabbi ku idmaye dahab waan rabaa dahab gabdhaha kaloo dhan ba dahabkii noocaasa habay wada qaban gaariya loo gaday guri noocaasa loo gaday dalxiisaa loo kiciyay dalxiis jabana indonesia dalxiis fiican lagu sheegay way caraysan tahay dalxiiskaagana maana meel fariiso maya warqadaydaan rabaa ifur kuwa noocaasoo kale ah haddii rabbi ku idmaayo naa ninka iska fur ehelkaa ka mid ah waa lala soo hadlayaa lacag soo dir baa la leeyahay naa ninka lacag nooma soo diray fur dheh waxaasoo dhan baa soo galahaya dadkaasoo dhan nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku digay waciid oo wuxuu yidhi qofkii dad isqaba kala fasahaadiya ummadda nebi maxamed kama mid aha marka gabaray ama ninkaas dooro ama ummadda nebi maxamed dooro warkaygu anagu waa cadyahay inaad reer kala dirtid oo yidhaahdo reerkii horaan furahaya adaa meesha soo galahaya annagu kugula talin mayno reerkaas ha dhisnaado insha allahu tacaala ilaahay isu barakeeyo asagana ilaahay subxaana wa tacaala fitanka ka badbaadiyo adigana ilaahay ha ku badbaadiyo gabadhaas kulligiin u duceeya maadaama ay talena soo diisatay taladuna wixii kitaabka iyo sunnada aan siinay ilaahay subxaana wa tacaala sharka ha ka ilaaliyo fitanka ilaahay subxaana wa tacaala sharka ha ka ilaaliyo haddaan kula kaftame adeer gabar qurux badan baa tahay baan u malaynayaa caddaataye adeeray haddayaysan iishan raggu kugu dhicine macalinkiiba haddii rabbi ku idmaye uu aad ka baxsan weyday hadda kuwa kaloo sharciyada jirana waaba kasii daran yihiine anigu waxaan kugula talinayaa indha shareerka xiro indha shareerka intuusan madax xanuun iyo wadna xanuun kugu dhicinin indha shareerka xiro adeer taasaan kugula talinaya asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
جزاك الله خيرا وجزاك شيخنا الشيخ حنف الله سبحانه وتعالى حكو حفديو ولي waxaa ku guda jirnaa barnaamijkeeni ila tali oo aad kala socotaan qolka islaamiga taqwa network soo dhawaada dhamaantiin insha Allah taala wali waxaan ku dhex jirnaa arrimihii qoyska walaalo badan baa talooyinka soo weydiisanaya waxay leedahay walaashaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh ninkayga oo iqabo ayaana kale ayuu guursaday bay leedahay aniga asagana waa isku cusubnahay aniga walac ayaa noqday marka wuxuu uu leeyahay mar walba taba cuntada aa karisa ma macaana wuu iga tagaa laakiin aniga inuu ila joogo ayaan jeclahay balse waa jirnaa bay leedahay xaqa fiiri ayaan dhahaa mar walba wuxuu mar kasta wuxuu igu yiraahdaa naagteeda kale ayaa kaa cunto karis macaan ama kaa fiican adiga waxba ma tihid waxbana ma karisid bay leedahay marka talooyin bay rabtaa walaashaani aadna way u murugsan tahay xitaa waan sii warsaday marka jazakallahu khayran sheekha waxay leedahay talooyin ma ii hayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وصحبه وسلم. إلهي سبحانه وتعالى قبضها سمر هكو إرزاقه. الله سبحانه وتعالى 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 سمر هكو إرزاقه. إن حالي تفسيرك وحنكو صامرني. ابن آدم كإن الامتحان هيو نرشنا أي امتحان تهي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قفك والامتحان من مسلم كأه امتحانكم يا رب ضنبك كاجا إيمان هيا نيكو كاجا إيمان هيا عرورتو كاجا إيمان هيا إهل كاجا يا قرابدو كاجا إيمان هيا ودن كاتشوكتد بو كاجا إيمان هيا دولدو كاجا إيمان هيا ميلا بدن بو قفك امتحانك وجا إيمان هيا هذا امتحان كاس إلهي سبحانه وتعالى وحا ويري عدة كوكوليس تتشنو أبلان قاضي خاصة قبلها مسلمات كأه نمان كود امتحانكم مركو وغي مادو إنا يكو صبران بالربا هورت مركا سمر بانقود عينينا إلهي سبحانه وتعالى كدقا مذي امتحانك كوكوليس إلهي سبحانه وتعالى كدقا مذي امتحان كوكوليس ان هورت حتى واحد في عنان لهيد عاويتو إنان أصغى الله اللينا في عنان لهيد عاويتو inaan asaga la hadlayno oo asaga meesha hadda gabadhaan kala hadlayno asaga nagu fiicnaan lahaa ilfahan u qaadi lahayn xadiistii nabigana madaxan uga garaaci lahayn calayhi salaatu wassalaam waxaanse gabadhaas iyo kuwa la midka ah aan u ballan qaadayaa usbuucan insha allahu tacaala muxaadaro ku saabsan wiilasha iyo qaabka tacaamulka haddii rabbi ku idmahayo xaasaska iyo cunnada iyo arrimahaas ku saabsan insha allahu tacaala inaan biidni illaahi albaari ilmawlaa aan u galo nabiga calayhi salaatu wassalaam xaasaskiisa haddii khalka waa taqaanaan soo ma khal haddii loo keeno khal wuxuu oran jiray alla macaan badana ya alla macaan badana alla hayaay cunna ma taallaa baa layidhi mayaa layidhi khal baa maalin loo keenay markaasuu yidhi ham saas u daldalay nabiga هم معان بدنا خل إيدام معان بدنا يا سلام لا إله إلا الله الله أكبر وصلوات الله وسلامه عليه نبينا وحا يري خياركم للنسائهم وحبا كل إيران ما دام وسننك إلى تشوغنين عجلت بان الضوبي دونايا عجلت إن شاء الله تعالى الدار أما قولك التقوى كالصحر إذن إلهي waxaa kan la yiraahdo ayadaan salaha hadlaynaa hadda gabadhaan la hadlaynaa gabadha waxaan kula talinaynaa gabar yahay samir ilaahi subhanahu wa ta'ala ha kugu irsaaqo gabdhuhu horta cilad baa jirta siday u ordahayaan oo u kabash leeyihiin maalintay walacado bay isnacaysa waa run waxbaa ku soo siyaaday xanuun baa ku soo siyaaday laakiin waxaa la yidhahdaa dhimanaysa dareerkaa la iska duwaa ma tag bay bilaabaysaa markaasay deerku dirci kuma tagin oo sariirtii kuma tagin oo gurigii kuma tagin oo xaggii kuma tagin markaasaa meel kasta waxaad loogu imaanahayaa dhibaato iyo shiddo taas sax ma ahan haddaad dhimanaysa dareerkaa la iska duwaa wixii waxaa la rabaa dirba ku idmahayo in nadaafadii iyo cunnadii iyo maaragtay waxa kan la yidhaahdo qofku uu aad iyo aad maaragtay u dadaalaa la rabaa insha allahu tacaala marka waxa kan la yiraahdo gabdhuhu horta markaas ka digtoonaadaan khaladaadka gabdhaha ku yimaada waxa kamid ah markay walacaan ninkay nacaan
oo sheekay bilaabaan oo waa walacay adan ka dhex xaqiiqa qolaad tiraada adeer aniga maxaad iga dhex aragtay anigu dir bu ku idmaayo fircoon baana waa ku nacay bay ku leedahay adeer maxaan sameeyaa adigu nacday waa sheeka baralay moogta marka gabdhaha muslimaadka horta ha ka digtoonaadaan waa ku nacay iyo waa walacay iyo miciisi iyo waad ii soo urtay iyo sheekooyinkaas ha ka digtoonaadaan markasta waxaan waa ninkeegii xuquuqda la isku leeyahay haddii rabbi ku idmaya hala ilaaliyo haddii rabbi ku idmahayo taas waa qodob weeye qodobka labaad markay dhalaan bay kasii daraan walaca waxa kasii daran markay dhalaan markay dhasho odaygiiba waa ilaawi ma garateen hadda shalay bay waxay ku lahayd aboowe macaane gacaliye fiicane lamlane markuu soo socday waxay lahdaa waa yimid gacaliyii baa soo socda macbaysiin shukumaankii bay diyaarin bii ma garateen maalintii ay dhasho cunugii bay ku mashquulin nuune oo nuune hoone oo nuune odaygii halkaanu yimid cunno ma jirto biyo ma jiraan sheeka ma jirto hurda ma jirto waxba ma jiraan cunno ma taala nuune oo nuune hoone oo huune iiseexo oo iiseexo halkaan ciyaar ku haysaa hadda shalay odagaan waxaa la baray ma ogtay sheekaa la baray hawl baa la baray cunaa la baray gogol baa la baray ma jirto wixii markaas wuxuu iska dhaadhicinahayaa in la nacay ragga qaarkood ma ogtay cudu daari mahayaan ya wuxuu iska dhaadhicinahayaa in la nacay sheekadii shalay iyo wixii shalay waa la ilaaway marka haddii rabbi ku idmahayo gabdhaha muslimaadka arrimahaas ha iska ilaaliyaan idan ilaahay markay walaacaan iyo markay wax dhalaan kuwo kale cunadayba iska badiyaanba waa dhashay baa leeyahay markaas caana shaah iyo maraq iyo hilib baa lagu jarjarayay oodkac baa reerkooda usoo jarjaraya markaasi waxay noqonaysaa 90 kiilo markaasay wax kasta waxay leedahay orodba shaah ii soo qabo orod talaagada waxaa ka soo bixi haddii rabbi waa iska cayishay suuqa xataa looma kaxaysan kara gabadha yareedo gacanta la qabsan jiray loola ordi jiray albaabkii supermarketka ma geli karto waa 100 kiilo ma garatay marka haddii rabbi ku idmahaya arrimahaas dhacay kullu xalaal la iska ilaaliyo marka waxa la dhalay iyo marka la naado iyo awlaas la iska ilaaliyo insha Allah ta'ala ilaahi subhanahu wa ta'ala maaragtay idin barakeeyo hadana wixii runan ka wada hadlaynaa ilaahi subhanahu wa ta'ala idin xifdiyo raalina ahaada waaya insha Allah ta'ala intaas waa canaan weeye iyo walaaltinimo aan gabdhaha siisanayo ilaahi subhanahu wa ta'ala idin barakeeyo waxa la rabaa wixii in la isku dhex wadaa la rabaa wixii in la isku dhex wadaa la rabaa ninkan waa caruur raggu ma garateen marka wixii la barayaa laga jarin markaad walaa noqotid wixii hore aad u bartay ha ka jarinina haddii kale ha barinina wixii markaad dhashay ha ka jarin seebaad iskugu wadaysaa maalan waxaad iskugu wadaysaa markii aad maalan cunug dhashid gabadha caaqilada ah wixii way isku keenaysaa inta odagii maqan yahay magaalada jiro nuunihii ma seexinayso way u didaysaa hurdadii isagii bay ciyaarsan cafaayadii baad ka bedelin cunadii baad siinaysaa wakaasaa waad u sheekaynaysaa odagii baa soo dhow imsaa ka dhiman waqtigu imaan jiray 30 daqiiqo ama hal saac wiilkii yaraabaad seexin wiilku maantoo dhan buu soo jeeday sooma waad seexisay waa daalan yahay bas diyaar garow marka odagii u diyaar garow dharkaagii cunadiisii gurigii hagaajintii nadaafadii yaa salaam odagii baa gurigii yimid gurigii shaqan ma lahan cunuunihii yaraa waa hurdaa TV kama daaro qeyla ma lahan yaa salaam gurigii waxa way hadal ma jiro unsiga baalkii sankii baa ka galay baalkii yaraayo haddii rabbi kudmay gabdhuhu shidan jireen oo unsiga ahaa oo khatarta ahaa baalkii baa sanka galahaya yaa salaam sankiisii horta waa la qaatay gurigii buu soo galay alaab iyo dhar waxaa la qabaa kala nooca halkan yaa alaab kala gedisan labadii indhoodna waa laga kaxaystay dhagihiiba xabiibi soo dhawow baa la yidhi labadii dhagoodna waa la qabsaday indhihii waa la qabsaday sankiina waa la qabsaday gogol sariirtii go-i xalay uu ku ogaa maana mid kala saaran caawayto ma garateen adduunyadii oo dhan ba caalam kala weeyaba marka intaasna waa sir weeye yar oo aan idin qashahayo gabadha noocaas oo kala de maalin kasta waa la jeclaanayaa gabadha noocaas oo kala ah habeen kasta hadda jacaylkeeda waa sii badanaya lagama hawo gidisanayo marka asbaabaha keenaya in la yiraahdo cunadaada iyo magaciisigaaga iyo gabdhahu waxaad ragga barteen ama xilliga walla ha noqoto ama xilliga ilma dhalowga ha noqotee yaan laga jarin wixii insha Allah ta'ala waan ognahay wallu waa xanuun ilmuhuna waa wax kale oo soo siyaaday laakiin sidaas oo ay tahay haddana waxaa dirib ku idmahayo dhulka hal iska qaado ha is oranin haddii rabbi ku idmahayo waad xanuunsan tahay ha is oranin wixii dadaal ha la badiyo ilaahay aydan xifdiyo wixii dardaarana ragga marka la dardaarmaya ninkaasna cajalad baan u doobi doonaa insha Allah ta'ala fal raalina ahaada salaamu alaykum wa rahmatullahi fadal
جزاك الله خيرا وجزاك شيخنا الشيخ حنفي الله سبحانه وتعالى هكو حفظيه waxaan filahayaa walaashaasi inay aad iyo aad uga bagatay ayna fahantay dardaaranka shiiqa iyo taladiisaba intaba inay qaadan doonto dhigtan u raaci doonto sidoo kale wari arrimihii qoyska baa ku jirnaa talow caawa aad iyo aad bay u fara badan yihiin kiisaskooda aad bay u badan yihiin qaar baa xitaa fariino ku jiraan aan arkahaya hadda laakiin midkan aan soo qabtay oo iigu soo hordhacay waxay leedahay walaashaani assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sheekh nin aan guursaday nin ayaan guursaday aabahay oo iga doontay wuu i siiyey 2 habeen oo ii yimid kadibna waan waayay bay leedahay markaan weydiiyey wuxuu igu dhahay naag kale aan qabaa Soomaaliya ii jirtaa iyo caruur oon soo wataa waana mid aan wax haysanin bay leedahay masjid ayuuna imaam ka yahay laakiin 2 jeer oo been ii sheegay hadda ani wax xoolo ah kama qaadan ifur inaan dhaho aan rabaa maadaama aan aamini karin qof been ii sheegay markasta sheekh ila tali bay leedahay walaashaani talabay sugaysaa walaashaani gurigeeda bay kaligeed fadhisaa computerkeeda bay dul fadhisaa falay tafadal insha Allah horta gabadhii hore taladii waa ka ilaaway aan rabay inaan ugu gabagabeeyo waxay ahayd walaalay samirkaas ilaahay wuxuu kugu bedelayaa khayr samir baan kugula dardaarmaynaa maadaama adduunyadu imtixaan ay tahay sida aan ku bilaabay samirka qaado intii dambe gabdhihii baan si guud baan ula dardaarmayay laakiin ayada teedii waxay ahayd inaan u dardaarmo sabir sababtoo ah qofka muslimka markuu sabro ilaahay faraj buu u furaa subxaanahu wa tacaala fa inna maca alcusri maxaa ku xiga horey baan usoo marnay walcasri sharaxaadeeda sheekh Cuthaymiin fa inna culays kasta fudayd baa ku xiga marka fudaydkaas kuu soo socda ha ka fududaanin oo adugu ha ka hor dhicin fudayd baa kuu soo socda haddaad sabirtide adugu ha ka hor dhicin dardaarankaygu waa midkaas inaad samirtid ilaahay baridid ilaahay isku xirtid adkaarta aad ku dadaashid sadaqada iyo salaada aad ku dadaashid wacalaykum salaam khayrka dhan aad ku dadaashid udunkuna u duceeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala gabadha faraj ha u furo ilaahay dhibaatada ka dulqaado ilaahay subxaanahu wa tacaala culayska ka dulqaado allah subxaanahu wa tacaala maaragtay faraj khayr qaba ha siiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala shidada ha ka dulqaado ilaahay subxaanahu wa tacaala wax khayr qaba ha ugu bedelo ninkaan le midaan ninkaan 2 hameen gabadha la joogay ma sheekadii testiga ahayd miya baraabay soo baraaway miya sheekadu hal soo baraaway soo wuxuu guur maaha soo wuxuu ma ahan dad isu xalaal ah soo guurkii 7 bari gabadhaha la gali jiray ma aha soo hadii rafku ku ilmahayo ma ahan midkii deganaanshaha iyo raaxada laga qaadi jiray khaladku markii hore u dhacay waa wadaad iyo garweyn buu leeyahay iyo masaajid buu imaam ka yahay iyo waa qura xaafidul quraan iyo waxaas dooruhu hore baan uga hadlay kuwa ka marada ii fura garkayga weyn fiir garkayga weyn waa halkan 40 gabdhood baa imtixaan ku galay 5 tusoo quraana markaas ay soo kala yaaceen kuwii masaajidda joogay masaajidkaas aan joogaa sheekh hebel iyo weydii sheekh hebel mid kale ka marada ii daaray garkayga weyn arag kulaha adeerana garkaaga maxaa iga galay duweeyaa dir buu ku ilmaayo ma garateen marka horta zeedaba waa gar weyn yahay iyo quraan buu yaqaanaa iyo waa xaafid iyo waxaas haddii rabbi ku idmaayo la iskuma guursado waxa la isku guursadaa waa kitaabka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wassalaam waa istikhaaro waa talo waa dariiqii nabigoo la mara calayhi salaatu wassalaam geedkii fudayd lagu koro fudayd baa laga soo degaa fudaydku waa maxay fudaydku waa inaad ka tallaabsatid hadyigii nabiga calayhi salaatu wassalaam dhib ma lahan caawa haddaad isbarataan hameen dambe aad isguursataan laakiin waa inaad dariiqii aad martid oo istikaaradii aad martid oo wixii aad hubsatid oo maaragtay wahaakada halmujara aad maaragtay istishaaradii aad samaysid wahaakada halmujara marka gabadhaas anigu hadda garan mahayo ninkaas in la waraystuu u baahan yahay waxaa suuragal inuu xanuunsan yahay baa suuragal ah waxaaba laga yaabaaba in kuwo kaloo adiga ku gaadgaadi jiray markay ka war heleen inay il ku dhufteen baaba suuragal ah oo uu xanuunsan yahay hadda u baahan yahay in quraan ninkii la saaro baa suuragal ah marka fatwadiisa iyo taladiisa iyo arrimihiisa laguma degdegi karo haddii rabbi ku ilmahayo waxay u baahan tahay inaad maaragtay si caqliyeysan oo maskaxaysan aad arrimihii dib aad ugu fiirisid sababta inaad ogaatid inaad la xiriirtid insha allahu tacaala baad u baahan tahay ilaahay subxaana wa tacaala faraj khayr qaba ha kuu furo haddii arrintaasi ay xal yeelan weydo oo ay noqoto inuu yahay nin wax khiyaameynahayay hadday noqoto ninku khiyaameynahayay oo khiyaano watay
adigana dan aan ka lahayn guurkaaga hadday taasi kuu soo baxdo hadda ilaahay furiinka wuxuu u sharciyeeyey wixii isfahmi waayey inay kala tagaan sideedana cid xoog ku haysan karta ma jirto cid xoog ku haysan karta ma jirto indhahooda shana la kala dirayaa ma garateen hadduu Norway joogo Cabdicasiis baan u dareynaa ka furahaya hadduu hadirbu ku idmaayo Sweden joogo Ibn Yaasir baan u dareynaa ka soo furahaya ma garateen hadduu hadirbu ku idmaayo Holland joogo Cabdiladiif baan u dareynaa ka soo furahaya hadduu Hargeysa joogo Sheekh Cabdiladiif waxaan u dareynaa Sheekh Cabdullah ka soo furahaya hadduu Jarmal joogo Salmaan bar war ma garateen wax cid xoog ku haysan karta ma jirto fatwadeena annaga u hayna ma garateen waxa kale la yiraahdo cid xoog ku haysan karta ma jirto gabar khasab loo sheegi karana ma jirto gabar muslimada lama khiyaab beenna looma sheegi karo ma garateen diintan islaamku waa diin haddii rabbi ku idmay naseexa ah waa diin wanaagsan waa diin bishaaro ma aha diin khasab ma aha ma garateen barka ilaahay subxaanahu wa tacaala haydin barakeeyo waxaan kaaga soo wadaa gabadhaas waxaan rabaa inaan u sheego diinta islaamku inaysan ahayn diin jajoog ah wacaashiruuhunna bilmacruuf waxa kale yiraahdo wanaag baa la rabaa in lagu wada joogo farxad baa la rabaa in lagu wada joogo haddii la wada joogi waayana haddii rabbi ku ilmaayo meeshii khiyaano iyo isdaamariyeen ay timaadana hadda barqacad baa la kala dhaqaajinayaa barqacad baa la kala dhaqaajinayaa marka kala dhaqaaq iyo hawlahaas intaan la gaarinin gabadhaas waxaan leenahay degdegin walaalay waxubso ilaahay bari ilaahay subxaanahu wa tacaala la tasho istikhaarayso laba ragcadood go'aanka aad ku dhaqaaqaysid intaada ku dhaqaaqin laba ragcadood istikhaaraad tuko ilaahayna la tasho ilaahay subxaanahu wa tacaala wax khayr uu ku furahaya ilaahay subxaanahu wa tacaala badil khayr qaba gabadhaas siiyo haddaysan khayr isu ahayn ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii khayr isu yihiinna ilaahay subxaanahu wa tacaala dhexdooda maslaxada dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala shaydaanka iyo dhibaatada ha ka dulqabto falyatafadal mashkuuran جزاك الله خيرا وجزاك شيخنا الشيخ حنفي الله سبحانه وتعالى هاي نوكا حفظيو waxaan filahayaa ii sheeg walaalaha inay aad uga bagteen kuwa kaleetana ii sheeg ay weli qoraaladooda ay soo qorahayaan baan arkahayaa walaalaha soo dirsanahaya way badan yihiin insha allahu tacaala walaalaha waxaan u sheegahayaa barnaamijka riyooyinka ma ahan insha allahu tacaala walaala baa lala talinaya insha allah wixii tala ah waan gudbi doonaa insha allahu tacaala aad soo qorataan الله سبحانه وتعالى ha inay xifdiyo walaalaha qaaliga ah walaashaan waxay leedahay nin ayaa muddo 8 sano ah muddo 8 sano aad ii dhibayay bay leedahay ayaa i furay anoo rabo in aan haddana cudadii dhammaysto ayuu cudadii ku jiro ayuu yiri waan kugu soo noqday wuxuuna wacay laba wiil oo asxaabtiisa ah waxayna ku yiri dhageysta rajactu ayaan iri xaaskaygii ninkii markuu isoo ceshtay kadib bay leedahay ayuu sidii iyo dhibkii aan isku furnay sidii buu ka bilaabay haddana meeshiisii ayuu ka bilaabay maxaan suubiyaa halla ila taliyo laakiin gabadha dhibka haysto maysa sheegin waxay leedahay hal la duceeyo ninkeeda inay jeceshahay bay halkaa ka cad ducana ay rabto tala wanaagsan oo qalbiga in loo dajiyeen ay rabto kaligeedna ay computer fadhiso Allah subhanahu wa ta'ala ha xifdiyo falyatafadal insha Allah sheikhuna Hanafi assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh markii dhaweytaan ka soo hadlay cid xoog ku haysan karta inaysan jirinin cid xoog ku haysan karta inaysan jirinin markii dhaweytaan ka soo hadlay idan ilaahay dib ugu laaban mahayo wixii faahfaahinteeda u baahanna markeedaan insha allahu tacaala geli doonaa waxaa kuu soo haray gabadhan tiri ninkii waa i dhibay haddana waa igu soo laabtay anoon cuddadii ka bixinin xaaskiisii baa tahay dhibaatadu nin iyo naagis qaba soomaalidu waxay ku maahmaadaan nabadna maahan heshiisna ma aha nin iyo naagis qaba nabadna maaha heshiisna maahan bay soomaalidu ku maahmaahdaa marka dhibka ninkaagaas haddaad ku sabirtid oo ilaahay subxaana wa tacaala aad u daysid hadda ilaahay subxaana wa tacaala faraj buu kuu furhayaa farajkaasna waxa ugu weyn farajka jannada iyo albaabada jannada maaragtay in lagu yiraahdo waxa kale la yiraahdo maaragtay wax aadan filanaynin oo 8 albaab la yiraahdo ka rabtid ka gal haddii rabbi ku idmahayo hala ii duceeyay tiri gabadhaas walaalaha dhammaan waxaan ka codsanayaa in loo duceeyo maadaama hadda ayadu waxa kan la yiraahdo ay sheegatay in dib lagu hayo ilaahay subxaanahu wa tacaala ninkeeda baarha uga dhigo allah subxaanahu wa tacaala baarha uga dhigo allah subxaanahu wa tacaala baarha uga dhigo allah subxaanahu wa tacaala baarha uga dhigo bal gabdhow waxaan gabdhaha kula talinahayaa hadda wax badan baad wax soo cayrinayseene waxna ku keeni weyde bal markaan sabirka tijaabiya
markaana bal samirka tijaabiya nimanka dhibaatada badan oo u shawadan bal horta ayaamaha loo sabro oo bal sanadahan samirka tijaabiya ilaan bacdi la tuurahayay xal keeni weyday iskaabulaa labadii qoloba ku wada dhacday marka insha allahu tacaala bal sabirka iyo dulqaadka hala badiyo taalitan ma suuragal ma tahay khaladka ragga ka imaanahaya oo gabdhuhu ku samaynahaya oo gabdhaha ku dhacahaya inay gabdhuhu khaladka ka yimaadeen oo gabadhu ay wax ka qaldan yihiin oo xijaabka ama aysan qaadanin ama sunnayaasha aysan ilaalinin ama riba iyo sabreed ay usoo dhuumatay ilaahayna nimankoodii ku imtixaamay sidaasoo kale suuragal ma tahay nimanka laftigooda imtixaanka haysto xagga dumarka dembi ay samaynayeen iyo khaladaad diinta ah horey baan usoo sheegay markaan bilaabahayay haddii rabbi ku idmahayay muxaadaradayda baan horay usoo sheegay oo waxaan idhi ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi fii suurati axzaab markuu maaragtay ka hadlahayay arrimahaas iyo guryaha wadkurna maa yutlaa fii buyuutikunna min aayaati illaahi waalxikma ina allaha kaana latiifan khabiira gabadhaas waxaan kula talinaynaa caawayto laga bilaabo gurigaaga kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ku dhaq oo ay ugu horrayso inaad jalbaabka xiratid iyo shareerka oo ay ugu horrayso tv-ga guriga inaad ka saartid iyo musalsalaadka oo ay ugu horrayso sawirada guriga ka buuxa inaad jarjartid oo aada googoysid oo ugu horrayso heesaha iyo muustikada guriga usoo dhuunta inaad maaragtay ka ilaalisid salaaduhu ayadu waa waajib qur-aanka barashadiisa aad bilowdid salaatuleylka aad bilowdid allabariga iyo ducada aad bilowdid ilaahay subxaana wa tacaala faraj buu kuu furhayaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku yidhi walanudiiqannahum min alcadaabi aladnaa duuna alcadaabi alakbari lacallahum yarjicuun cadaabka weyn intaan la gaarin mid yar baan idin dhadhansiinaynaa macnaha dembigaad gelaysaan weeye awgiis dembiga midka yar muxuu yahay carruurtiibuu kaaga imaan ninkiibuu kaaga imaan reerkiibuu kaaga imaanin ma garateen marka haddii rabbi ku idmahayo intaasoo dhan buu kaaga imaanahayaa marka waxaa la rabaa noqoshaa la rabaa gabadhaas marka waxaan u dardaarmaynaa ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa inay u laabato ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa inay u toobad keento ilaahay subxaana wa tacaala waxaa laga yaabaa guriga carruurta inaanba salaad tukada la oranin nebigana wuxuu yidhi amra carruurtiina ku amra markay 7 jiraan salaada ku amra 7 jir salaada ku amra marka carruurta haddii rabbi ku idmahayo salaadaha ha lagu amro oo guriga ha noqdo guri ilaahay subxaana wa tacaala maaragtay lagu xusayo oo waxaa laga yaabaa guriga inuu sawir yaallo guri sawir yaallo ma malaa'ig baa soo gelaysa guri sawir yaallo ma malaa'ig baa soo gelaysa malaa'ig ma soo gelayso marka walaalayaal guryaha laga ilaaliyo maaragtay intaasoo dhan laga ilaaliyo iyo mukhaalafada nabiga calayhi salaatu wasalaam waad mahadsantihiin ilaahay subxaana wa tacaala faraj khayr qaba reerka ha dhex dhigo ilaahay subxaana wa tacaala dhexdooda khayr qaba ha dhigo allah subxaana wa tacaala dhexdooda khayr ha dhigo allah subxaana wa tacaala dhexdooda khayr ha dhigo allah subxaana wa tacaala dhexdooda khayr ha dhigo falyatafadal mashkuuran جزاك الله خيرا وجزاك شيخنا الشيخ حنفي الله سبحانه وتعالى ku xifdiyay fiiqeena qaaliga ah waxaan filahayaa walaalaha inay aad uga bagteen aad iyo aad uga faa'iideysanayaan Allah subhanahu wa ta'ala walaalaha dhamaantood ha xifdiyo walaashan sidoo kale waxay leedahay walaashan waxay leedahay waxaan rabaa gabar walaasheedo xanuunsan in la igala taliyo bay leedahay waxay tilmaamtay walaashani gabadhaani cudurka dumarka ku dhaco jinniga la yiraahdo dumarka laga korqeeliyo inuu hayo walaasho kadib isbitaalada markii la geeyay waxay dhahaan wax jawaab loo ma hayo qur'aan badan baa lagu akhriyay wali wax jawaab xataa qofka ku jiro ma qeylinayo oo dumarka qaar waa laga dhex qeyliyaa qofka wuu hadlaa laakiin ma qeylinayo bay leedahay walaashan Allah subhanahu wa ta'ala ha caafiye waxay kale tay ku sii dartay hooyadeed baa sida hooyo ayaa sidaas camal waxyaabo laga shidi jiray awal hore marka wixii laga shidi jiray inay hayaan baan ka cabsanaynaa bay leedahay laakiin hooyo waxaas way ka toobad keentay oo hadda lagama shido laakiin ayada sidii camal baa loo hayaa ugu dambeyntiina hadda kaadidii ayaa ku dhigtay baa leeyahay kaadidii baa ku dhigtay marka jazaakallahu khayran waxay leedahay sheekha hanu u duceeyo hana igala taliya arrimahaas baa jiray falyatafadal insha Allah ta'ala reerkii dhan way dhageysanayaan computerkii baa u furan baa u maleynaya marka falyatafadal sheekhuna Xanafi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ku hormarayaa gabadha intaan ku hormarinin maamada ka toobad keentay arrimahaas iyo jinka in lala xiriiro wax la siiyo
ilaahay baa mahad iska leh aw guuriyaan ku leenahay tilaabo fiican baad qaaday horay u sii wad caqiidadaada iyo tawxiidkaaga ku dadaal hambaliyaan ku leenahay maamadaas ilaahay ha ku xifdiyo ciddii sabab ugu ahayd inay ku fahansiisayna ilaahay subxaanahu watacaala ha xifdiyo adduun iyo aakhiraba gabadhan xanuunsan waxaan ilaahay subxaanahu watacaala uga baryayaa inuu ilaahay caafimaad taama siiyo ilaahay adiga caafimaad taama bixiye ilaahay caafimaad taama sii ilaahay caafimaad taama sii ilaahay caafimaad taama sii ilaahay subxaanahu watacaala caafimaad taama siiyo allah subxaanahu watacaala caafimaad taama siiyo amiin ya rabbal caalamiin waxaan soo sheegnay mar dhaweyto inay adduunku imtixaan uu yahay marka horta gabadhaas waxaan kula talinaynaa imtixaankaas inay ku sabirto xanuunkuna qofka ilaahay subxaanahu watacaala waa ku tijaabinahayaa oo waa lagu fiirinahayaa qofka inuu ku sabro iyo inuu ku laabto wixii inaad ku laabataan iyo in kale baa laydinku tijaabinahayaa naftu hadday kaa dhacayso horta wixii shirki weeye iyo gaalnime dib ha ugu laabanina qodobka labaad oo aan kula talinahayo wuxuu noqonahayaa in ilaahay subxaanahu watacaala isku xirkiisa iyo tacalluqa ilaahay subxaanahu watacaala aada badisaan khaasatan gabadhaas xanuunsan inay mar kasta haddii rabbi ku idmahayo alla ka cabsiga iyo ilaahay isku xiritaankiisu uu u badnaado oo ay maaragtay waxaa kan la yidhahdo isku badiso thalithan qodobka saddexaad oo maaragtay aan kula dardaarmahayo waxa uu yahay in ay badiso qur-aanka iyo adkaarta ku soo aroortay arrimahaas khaasatan waxaa kan la yidhaahdo adkaarta subaxii iyo adkaarta galabtii iyo adkaarta hameenkii adkaarahaas inay akhrisato sujuuddana ilaahay ku barido in ilaahay subxaanahu watacaala uu caafimaad siiyo sidaas oo kale ay badisato tasbiixda iyo qur-aanka dhegaysigiisa inay dhegaysato mar walba qur-aanka inay nafteeda jihaad la gasho oo cilmiga sharciga ah ay barato in ay raatib u dhegaysato ruqiyada sharciga ah iyo aayaadka cadaabka iyo maaragtay waxaa kan la yidhaahdo arrimahaas ku saabsan ruqiya sharciya in ay dhegaysato idan ilaahay anagu runtii waxaa kan la yidhaahdo kuma akhrina dadka qur-aanka oo meeshaan oo kale waan diidnaa in lagu akhriyo sababtoo waxaad dhici karta qofki inuu qof keligiisa yahayo uu cararaba gabar keligeed meel degan qur-aan igu akhri waan xanuunsanahay ay carartaba fakata dharkii bay ka carartay xijaabkii warqabto yaa la jooga hadda qabanahaya waa dhibaato daaqadii bay iska tuurta marka haddii rabbi ku idmahayo waxaa kan la yidhaahdo arrimahaasaan u diidnaa laakiin hadda ehelkeedii iyo dadkeedii iyo hooyadeed hadday la joogaan insha allahu tacaala waxaan ka codsanahayaa walaalaha haddii rabbi ku idmaayo walaalaha inay la xiriiraan oo ay la xiriirto walaalaha qolka qur-aanka iyo meelahaas lagu barto insha allahu tacaala aan ku akhrino insha allah maalinta sabtidoo kale oo kale aayaadka kusoo arooray insha allahu tacala aan ku saacidno waan samayn doonaa sidaas oo kale waxaan kula talinahayaa insha allahu tacaala kutub baa jirta oo la yidhaahdo magaceeda naftaada daawee naftaada adugu daawee marka naftaada waxaad u daawanaysid waxaa ugu horeysa inaad labadaada gacmood ku akhrisid qulwalle iyo qul cirib falaq iyo cirubnaas saddex jeer markaad seexanaysid jirkaaga oo dhan aad marisid insha allahu tacaala qur-aanka adugu aad isku akhrisid ilaahay aad baradid waxa ugu weyn ilaahay subxaanahu watacaala waxaa kan la yidhaahdo waxa ugu weyn inuu noqdo ilaahay subxaanahu watacaala inaad baridid oo aad ka rajaysid inuu ilaahay ku caafinahayo markaad qur-aankaas aad isku akhrinaysid in aad aamintid inaad ku caafimaadaysid inaad aamintid haddaad tiraahdo qur-aanka ma ku caafimaadaysaa mase maya qur-aanka ku caafimaadi maysid haddaad tiraahdo qur-aanka ma ku caafimaadaysa mase maya qur-aankaas ma ku caafimaadaysid marka waa inaad kow aad aamintid qur-aanku inaad ku caafimaadaysid intaasaan kuula dardaarmaynaa u duceeya walaalayaal ilaahay subxaana watacaala ha caafimaad taamaa siiyo ilaahay subxaana watacaala caafimaad taamaa siiyo allah subxaana watacaala caafimaad taamaa siiyo allah subxaana watacaala dhibaatada ka dulqaado ilaahay subxaana watacaala caafimaad taamaa siiyo allah subxaana watacaala caafimaad taamaa siiyo allah subxaana watacaala caafimaad taamaa siiyo allah subxaana watacaala caafimaad taamaa siiyo aamin ya rabbi alcaalamiin falyatafadal mashkuuran جزاك الله خيرا وجزاك شيخنا الشيخ حنف الله سبحانه وتعالى هاكو حفدي شيخنا قالي walaalkani walaal baa ii soo diray asagana wiilasha kaliya maanta dumarka kaliya baa ii sheeg gudbisanaya laakiin walaalo badan baa u jeeda hadda liistii kor ugu jiro wiilal ah wiilkani wuxuu leeyahay waxa aan
xiriir sameynay gabar aaladda internetka isticmaasho oo wadaad ah gabadhii aad iyo aad bay iiga dhex baxday buu leeyahay walaashaani aad iyo aad baan uga helay gabar daaciyada waaye diintana aad u taqaano balse wuxuu uu leeyahay muuqeeda ma aqaano inay iga weynaato iyo inay iga yaraato sheekhow markaan iri iskaytus ilaahay dartii inaan ku soo doono ayaan rabaa bay waxay igu tiri akhi fillaah dumarka lama arko ee waa ceeb arkina haddii aad rabtid waddanka aan joogo imaaw anigana wuxuu leeyahay haddii aan tago nuuc kale igu noqoto waan cabsanaya saaxiibow talo culus baan ka rabaa sheekh xanafi allah subxaanahu watacaala hanoo xifdiye sheekhuna falyatafadal insha allah بسم الله الرحمن الرحيم وحكوا بلا وإيجا دح بحذي بير حجبي كاب بحذي موضنا مسكليدا مس علوشة مس دبركة مس حجبي كاب بحذي ورطة التاس إنه ما هذا الشيء وإيجا دح بحذي باطل لكن ماشي كاب بحذي إنه ما هذا الشيء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قرب كلابات هدير بكو إلما هيو يا مسؤول كأه مركز أركتد إن ده يسدرالي أهو inay guurkan uu dhab kaa yahay oo ay maaragtay uu kaa yahay guur run ah horta yaa huba aad aragtid ma xuma insha allahu tacaala waxaa kan la yidhaahdo ilaahay subxaana wa tacaala ha ku barakeeyo dhexdhexaadin baa la samayn doonaa insha allahu tacaala cabdilatiif iyo aniga iyo nala soo xiriir gabadhaas haddaad ku heshiiseen guur sheekooyinkan intaad ka baxid waa iga dhex baxday iyo waanu dhimanayaa iyo sheekooyinkaas ka sheeka baraley baa la yiraahdaa hadda dadkii waa ilbixeen waxaas waa la isla garta gabdhuhu marka lagu yiraahdo waad iga dhex baxday waa ka waqti deer bu ku imaayo waad iga dhex baxday iyo waa ku dhimanaya hadda wayba barteenba inay sheeka baraley tahay lagu khiyaameynaayo marka dadkii hadda waa ilbaxay badownimadii iyo jaahilnimadii waa laga soo baxay hadda dadka lama khiyaami karo gabdhii hadda waa quraankii bay barteenoo lama khiyaami karo laba rag jaayadooda dhabarka ku wataan laba ragcood bay ku soo tukanayaan raalli oo bay ku leeyihiin hadhowtana marka anigu waxaan kugula talinayaa sidaan horta inaad istikhaaro tukatid haddii gabadhaas aad ku heshiiseen guur xalaal ah intaadan howlaha kala gelinin waad iga dhex baxday iyo waa ku dhimanayaa iyo sababtoo ah waa mushkilo weeye jacaylkan qofkan aad qalbigaaga siinaysid ma hubtid inuu yahay qofkii aad isguursan lahaydeen marka lagu yiraahdo raalli ahaw hadda habeenkii hurdo la'aan baa kugu dhacaysa ugu yaraan soo saas ma ugu yaraan hurdo la'aan bay kugu dhacaysa markaasaad oranaysaa ninkii hadhowta oranaya sabuurada naagaha Soomaalidu tuuga waay lama aamino Soomaalidu khiyaano warada khiyaano maana markii hore waxaad gashay 36 gashay ma garat markii hore baadaan la gelin baad gashay ma garatay marka waxa kan la yiraahdo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idin barakeeyo haddii rabbi ku idmaayo hal iska ilaaliyo baabkaas awlahaas hal iska ilaaliyo waxaan kugula talinayaa marka taladan waxaan kula talinayaa waxa kan la yiraahdo اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا كبيرا qodobadan adiga iyo wiilasha kalaba dhagaha u fura adiga iyo rag kalaba dhagaha u fura insha Allah ta'ala lixii soddon waxa la yiraahdaa bumba la yiraahdaa maaragtay wadamada carabta laga isticmaalo marka meel u dhow ataabatid kugu qarxaysa la yiraahdaa bumbooyinka qarxa hal la iska ilaaliyo insha Allah ta'ala waayahay اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم haddii rabbi ku idmahayo waxaan kugula talinayaa haddii ay dhabkaa tahay oo aad go'aansatay la istaagta qaado waxaad tiraahdaa walaalay waan kuu soo istikhaaraysanayaa adigana soo istikhaarayso istikhaaradaas markii wixii kaaga soo baxa insha allahu tacaala kadib haddii aad ku qanacdid ama ha weynaato ama ha kaa yaraato maantayto kuwa waaweyn baaba fiicanba gabdhaha waaweyn yurub gabdhaha waaweyn baaba fiicanba sababtoo midaan yartaa weligeed waxaa maarag laad bay kugu dhufanaysaa midaan yarta ah laad baa ka soo horeeya iyo bactuurow iyo aniga ma garat laakiin kuwa waaweyn waxbay soo jirribeen waxbay soo arkeen waxbay maaragtay yurub baa la joogaa wadankii lama joogo meel cidlaa baa la degan yahay qoftan caqligeedu kaamilka yahay insha allahu tacaala kuwaasaaba hadda maaragtay fiicane haddii istikhaaradu ay kusoo baxdo insha allahu tacaala gabadhaas hadda sababtoo dumarkiiba hadda wax maamulahayaa la yidhi adduunkii rag wax maamuli jireen lama joogo yurub waxaa la yidhi gabdhaha wax maamulo boorsadiina ayaga ayaa la yidhi lacagtii gaaladiina ayagaa la xidhiiraa la yidhi marka sheekada hadday saas tahay midaan 99 kuu garaacayn baa lagu qaataa midaan 99ka kuu garaacayn baa lagu qaataa
oo maaragtay markaad raalli gelisid raalli aanaysa laakiin mid oranaysa weligay aabbahay ima fiirinin weligay dharbaaxa layguma dhufinin weligay naayaal layma oranin weligay marka insha allahu tacaala waxba gabdhaha yaan looga cararin waa weynaan idan ilaahay nabiga calayhi salaatu wasalaam khadiiju guursaday oad la socotaan marka ilaahay miduu wax kaaga irsaaqayo wax kaa siinahaya ama ha yaraato ama ha weynaato waa isla meeshii insha allahu tacaala ilaahay subxana wa tacala hanoo xifdiyo gabadha hadday diin leedahay un ha laga dhowaado wiilkaas marka gabadhaas ku tiri walaalow maantayto hadda sida sahalka ah gabar adag weeye marka unugu waxaan kugula talinayaa inaad istikhaaraysatid intaasna aadan ku nicinine hadda dirbu ku idmahayo rag badan bay saas ku tiri oo maaragtay gabdhuhuna qiimay ku yeeshaan arrintaas gabdhuhuna mid markii waxa ka la yiraahdo aan ku arko caawa la isbartay ukhti aan ku arko markaas dirbu ku idmaayo markiiba wakaas sawiradeedii qabso adeeray hadda dirbu ku idmaayo adigu ninkan muxuu yahay adigu ma shaar baata adigu ma barafuun baata adigu la gabanayo maxay tahay waxaan fudeydka ah war xoogaha dirbu ku idmaayo uu gabdhahaas oo kale waa jeclahay waa taageersanahay wixii adkaynahaya oo maaragtay dirbu ku idmaayo xoogaa ma garateen mid baa hadda ka hor nin baa wuxuu igu yidhi gabar baan sheekaysanay buu yidhi markaas waxaan iri buu yidhi wuxuu yidhi horta gabadhii dirbu ku idmaayo isuukaayo ducee buu yidhi gabar baan is aroosaynaa maalinta war gabadhii meeda is aroosi lahaydeen markaasuu yidhi gabadhii waa ka cararay war maxaad gabadha saa u gasha yaa geel beele gabadha maxaa soo u gasha wuxuu yidhi gabadhii waxaan uga cararay buu yidhi aan ku arkaan iri buu yidhi markaasay waxay tustay buu yidhi macal timaheedii timahayga arag qoortayda arag magaciisayga waa ka cararay buu yidhi lafiisuu la cararay ma garateen waxaa ka la yidhahda wax badso wax beel bay leedahay marka gabadha muslimadda ah inay khaladkaas iyo ijraamkaas iyo kuwa codka jilciyo codka waxay ka dhigaan aboowe macaane codkay jeec ka dhigahayaan laa xawla walaa quwata illaa billah waa dembi iyo dunuub kale waaye waa dembi iyo dunuub kale marka waxyaabahaas waxba laguma helo in maaragtay dembi iyo ijraam la galo oo gabadhu maaragtay ay wax raqiisa noqoto hadda waxaan waa guur waana wax ilaahay loogu dhowaanayo ilaahayna dembi iyo macaasi looguma dhowaado gabdhaha muslimaadka ah qiime inay isu yeelaan weeye codkooda inay adkeeyaan weeye in sahal lagu arka ma ahan in nin kastoo iska ordahaya oo iska orda ma aha ma garateen nin kastoo iska ordayo inuu ma ahan ilaahay subxaana wa tacaala marka ilaahay laga cabsado ilaahay subxaana wa tacaala baa faraj furahaya khayr u keenaya waxyaabaha baaltooga aan ku arkay wax dhaqankii iyo diintii iyo cadadii intaba ka fog gabar baa waxaa lagu leeyahy guur bay doonaysaa cv bay dhiibanaysaa qol bay joogtaa war waxaas xaggee buu nooga yimid ma diin baa ma akhlaaq baa ma dadnima maxay tahay gabar dhale anigu guur baan doonayaa cv baan dhiibanayaa ya maxanaha waa ilaahay subxaana wa tacaala laga fogaaday weeye arrimahaas maaragtay nimankuna waxaan kula talinayaa gabdhaha noocaas oo kale ah ku faa'iidi maysaane gabar xishoonaysa oo akhlaaq leh oo maaragtay ha raadsadaan idan ilaahay sababtoo ah qofku ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu barakeeyaa markuu ilaahay wax siiyo aad baan ugu farxay runtii gabadhaas qiimaha isu yeeshay aad baan ugu farxay waxaana leeyahay hambalyo ilaahay ku dayici maayo hase aatee gabaray hadda wiilka ka dabci insha allahu tacala haddaad maqlaysid khayr allaha ku siiye xoogaa maaragtay wiilka ka dabci idan ilaahay u naxariiso hadday dhab ka tahay salaada istikaarada tuko horey baan usoo marnay insha allahu tacaala shuruudihii fiiri ilaahay subxana wa tacala ha ku xifdiyo marka la isfiirinayo xaggee la iska arki karaa dhib ma lahan gabadhu shareerka inay marka iska qaado haddii waxa weeye kow la isku hubo oo la hubo waxaan inay dhab ka tahay labada dhinacba waxaan inay dhab ka tahay labada dhinacba haddii la hubo taasaa maaragtay qodobka koobaad ah labo haddii rabbi ku idmaayo taladud iyo macaansi inuusan meesha ka jirinin ragga qaar baa waxay u yidhaahdaan gabadha aan ku arkuu leeyahay wuxuu rabaa mugtay xoogaa wuxuu ku leeyahay waa ka nuursanooya war nuursi maxaa la yidhahdaa mid ba halkan yidhahdo waa dib nuurs soo qori jiray sabuuradda maaqan ii kariya miduu ahaaye ma garateen waxaa kan la yidhaahdo noocaas hadday sheekadu tahay waa xaaraam weeye gabadha macmacaanays iyo wejigeeda arag iyo xoogaa kaamarada hoos u dhig iyo timaha ma arki karaa iyo bal xijaabka dhig iyo sheekadaas sheeka baraley baa la yidhahda xaaraanna weeye wax banaanna ma aha war ma garateen marka shardi waxa ah in haddii rabbi ku idmahayo markaas laftigeeda meeshu aysan ahayn meel khalwo ah meeshu inaysan ahayn meel khalwo ah ma garateen marka walaalayaal arrimahaas sidaas ha loogu baraarugsanaado gabdhaha iyaga laftigooda ilaahay ka cabsadaan oo qaar baa waxay sameeyaan waxaan jirinin
oo haddii rabbi ku idmayo sawirro aysan lahayn iyo waxbay dirdiraan marka insha allahu tacaala taasna ha laga digtoonaado wiilasha waa walaalihin weeye ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa loo cararo ilaahay subxaana wa tacaala haydin xifdiyo raallina ahaada hadda annagu wixii diintu qabtay baan si toosa u abbaaraynaaye uga wada hadlaynaaye walaalayaal ilaahay irsaaq ha noogu irsaaqo gabadhu hadday tahay gabarh xishoonaysa waxa weeye mustaqbalkeena oo dhan baa hagaagahaya gabdhaha noocaas oo kale ah oo meelahaas farfadhiyana walaalayaal haddii aad taqaanaan u naseexeeya oo ilaahay wuxuu u qoray inaysan waayen u sheega oo maaragtay haddii rabbi ku idmahayo waxaad u sheegtaan irsaaqadda guurku inuu yahay irsaaqadana aan la waayaynin guurka hal mid baa laga waayaa waxaa lagu waayaa qofku inuu ka hormaro oo xumaan uu sameeyo oo macsi uu sameeyo oo dembi uu ku dhaco qofkii hees iyo dembi iyo qaawani iyo haddii xishood la-aan markuu ku dhaco guurkii waa kaa raagin sababtuu kaga raagayana waa macaasida awgeed weeye marka walaalayaal wixii ilaahay idiin qoray oo idiin soo waday sababtiina iyo gacmihiina ha iskaga celinina ilaahay ha idin barakeeyo ilaahay subxaana wa tacaala dhallinyarada wax khayr qaba hortooda ha dhigo ilaahay subxaana wa tacaala hortooda khayr 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 ha dhigo aamiin ya rabb alcaalamiin marka wiilkaas insha allahu tacaala bal idan ilaahay waa ku caawinaynaa nala soo xiriir insha allah wiilkaasow nala soo xiriir waa ku caawinaynaa waa idin dhexgelaynaa gartiinne fadal insha allahu tacaala asalaamu calaykum جزاك الله خير وجزاك شيخنا حنفي سيدا إيشك وناكسن أو والله إيشك أد أقرأ دعنيسي والله بدن با إيشك أدي أدنو دقيسنا كوا كليتنا دب أي نجد دقيسة دونان كوا سي في معنوه ذي إنسان أقونين بلاقيها برتين يوتيوب كان كل إنها التقوى إن نجد دقيستان سي في هذا إذن معنى وحياة هيقف يعني إيشك أنت ماك سوق بصدي أما سيدا وهلا يعمل وهلا يروح أنا هو ديره هو بورنا هو جابنا سي في إنه عسبر لقيه كان أنا كان هذا أرنت سالكس أو قدبو ولا شان وحيل هذا أيضنا هل إلى تريه بين هذا ولا شاني walaashahani saaxiibteed weeye waxay leedahay saaxiibteeda waxa la guursan rabaa September baa la guursan rabaa laakiin September ayaa la guursan rabaa walaasheeda hal la guursada Muhammad bay leedahay wiilkii guursan rabay baa wuxuu tagay masjid Pakistani ah tabliiq ayay u wadeen gabadhii waxay diidan tahay tabliiqa inuu aado inuu ka joogo bay rabtaa walaashu arintaasi bay isku khilaafsan yihiin bay leedahay guurkana September buu dhicilaa xilligii la isguursan lahaay buu wuxuu la tashkiiliyay tabliiq baa loo wadaa marka arintaasi baan ka soo horjeedaa bay leedahay gabadhii saaxiibteedna in dhageysanaysa baa u maleynayaa baltoga ay wada fadhiyaan marka waxay leedahay sheekhow in la ila taliyo ma rabaa arintaasi aniga arintaas haddan ku kala xanaaqsanahay wiilkii wuxuu taagan yahay tabliiqi baan aadaya anigana xilliga guurkeena waaye joog baan leeyahay bay tiri walaashaasi falay tafadal insha Allah sheekhuna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gabadhaas ilaahay subxaana wa tacaala guurkeeda guur khayr qaba ha uga dhigo hadda September waa bisha 9aad baan u maleynayaa haddana bishii 8aad baa lagu jiraa caawitana waa 16 baan u maleynayaa marka hadduu 10 koobarin maqnaanahayo 5 beri rooskii oo ka dhiman tahay oo soo laabanahayo hawshiisana ay u diyaarsan tahay tabliiqo unugu waxaan aqaanaa 40 casha la baxaa bay dhahan 3 bil ilaa iyo 4 bil baan baxayaa buu leeyahay wiilkan sida uu sheegtay walaashu wiilka waxaad ku tiraahdaa anigaa soo dhaweynayo xanafi waa diiday tabliiqa in la raaco sheekh xanafi tabliiqi waa diiday kaalay la soo hadal ku dheh insha Allah tacaala kaalay sheekha la soo hadal dheh 40 beri in la baxo iyo 30 beri iyo qoliyahaas uu diiday in la raaco ku dheh marka insha Allah tacaala anaga ka dhaadhicin doonay hanala soo xiriiro sababtoo waxa laga yaabaa hadda intaasoo bilood inuu orooskiisii iyo meherkiisii iyo guurkiisii uu sugahayay maanta inta wixii markay u soo dhawaadaan la yiraahdo 40 casho bax marka guurku waxa laga yaabaa inuu waajib ku yahay laakiin dacwadu inaysan waajib ku ahayn markaas baa suuragal ah laakiin guurku uu waajib ku yahay marka waajibkii inuu ka tagay oo sunno iyo waxaas raacay baa suuragal ah marka haddii rabbi ku idmahayo gabadhaas haddii rabbi ku idmahayo waxa kan la yiraahdo hanala soo xiriiriyo idan ilaahay hanala soo xiriiriyo insha Allah tacaala ثالثا qodobka kale waxa kan la yiraahdo macallin soo qoraan orkaya dacwadu waajib ma aha saasoo kale dacwadu مثلا mar baysan waajib ahayn mar waajib bay noqonaysaa
haddii la waayo dacwada wax wada walaal baa waxaan ka codsanayaa gabadhaas inay nala soo xiriiriso sababtoo ah aroos buu galahayaa meeshii ugu fiicnayd iyo goortii ugu fiicnayd weeye marka arrintaasna waa jaanis iyo fursad qolyahan ayagu leh 40 beri aan baxaynaa iyo culummadu waa diideen ibnu baas waa ka hadlay albani waa ka hadlay cuthaymiin waa ka hadlay caqiidadooda maaragtay suufiya mucaasar u bixiyay sheekh albani suufiyada casrigan qolyaha tabliiqa baan ka hadlahayaa islaamkuna ma ogola koox in la noqdo diinta islaamku ma ogola oo anigu haddaan la baxano tabliiq kuwo kalena iltixaad la baxaan kuwo kalena shabaab la baxaan kuwo kalena ictisaam la baxaan kuwo kalena shariifiya la baxaan dadkii kooxa iyo guruubaysi bay noqonayaan marka arrimahaasi kooxahaas waa la radiyey haddii rabbi ku idmahayo qolyahaas tabliiqa ahna waxaa kan la yidhaahdo xagga tawxiid urabubiya unbay dadka kala hadlaan tawxiid uluhiya iyo ma baraan culimmaduna waa ka digeen marka wiilkaas waxa fiicnaan lahayd inaan asaga la talinayno ama asaga aan isnaqaano insha allahu tacaala ilaahi subxaanahu wa tacaala maaragtay gabadhaas iyo wiilkaas hortooda wax khayr qaba ha dhigo hadda maba garanayo unugu hadda tala aan bixiyo wiilkiina safar buu u socdaa gabadhiina cilaan bay soo saaratay ninkiina safar buu u socdaa marka ninkaas haddii rabbi ku idmahayo waxaa kan la yidhaahdo hadda wuxuu u baahan yahay in la waraysto u baahan yahay in haddii rabbi ku idmahayo loo sheego naftiisa inuu ka bilaabo sababto dacwadu waxay ka bilaabataa naftay ka bilaabataa in la guursado wiilasha qaarkood waxa weeye waajib bay ku noqonaysaa khaasatan ragga yurub joogo anugu horey baan u fatwooday inuu guurka waajib ku yahay sababtoo waxay yidhaahdeen islaamo qaqaawanoo garama qabaa haddii rabbi ku idmahayo macallimiin nooca bay dheheen marka haddii rabbi ku idmahayo shaariciyada iyo dariiqyada iyo islaamahaas wiilka haddii rabbi ku idmahayo ay uga soo horbaxahayaan hadda meel u cararo u baahan yahay guriga u cararo buu u baahan yahay iyo meel u cararo marka haddii rabbi ku idmahayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wax khayr qaba gabadhaas horteeda ha dhigo allah subxaana wa tacaala wax khayr qaba horteeda ha dhigo allah subxaana wa tacaala wax khayr qaba horteeda ha dhigo marka waxaa kan la yidhahdaa maadaama jahli uu hayo jahliga waa la iskugu cududaaraa gabadhaas waxaan kula talinaynaa insha allahu tacaala waxaa kan la yidhaahdo haddii rabbi ku idmahayo inay samayso istiqaaro inay samayso 2 ragcadood istiqaaro ah inay tukato ilaahay subxaana wa tacaala haddii rabbi ku idmahayo na ay la tashato baa fiican idan ilaahay saasaan kula talinaynaa waxaan kaloo kula talinaynaa wiilkaas inay noo soo dirto ay tiraahdo bal magacaas samayso qolyahaas aad raacaysid waa la isku haystaaye bal wadaadadaas la xiriir insha allahu tacaala dheh waxaan u daraynaa insha allahu tacaala kutub ay ka qoreen culammadii ni ahlu sunna waljamaaca sheekh albani iyo ibnu baaz iyo cuthaymiin iyo culamadaas ay ka qoreen insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaalana ha kusoo hanuuniyo dariiqa xaqa ah iyo dariiqa toosan ilaahay subxana wa tacala ha kusoo hanuuniyo annagana ilaahay subxana wa tacala hana xifdiyo muslimiintana ilaahay subxaana wa tacaala ha mideeyo allah subxaana wa tacaala muslimiinta ha mideeyo allah subxana wa tacaala muslimiinta maaragtay ha mideeyo allah subxana wa tacala ha isu keeno ilaahay subxana wa tacaala kooxahan iyo dhibaatadan iyo shidadan ilaahay subxaana wa tacaala ha ka dhex qabto ilaahay subxaana wa tacaala kuwa diintooda ha ku midooba allah subxana wa tacaala ha ka dhigo kuwa xaqa ku midooba allah subxana wa tacaala ha ka dhigo aamiin ya rabb alcaalamiin xilligu waa xilli dambe weeye waa kowdii iyo annaga xaggeena siyaado weeye marka insha allahu tacaala berritana idan ilaahay kolley waa jamco horay in loo kaco dirbu ku idmahayo ayaa la rabaa marka insha allahu tacaala caawayto intaas aan kusoo xirano kadibna maaragtay aan ducaysano ilaahay subxaana wa tacala ha idin barakeeyo marka waa ducaysanaynaa insha allahu tacaala intaasa ducada bilaabinin wixii aan niri cid istifsaar ka qabta ma way jirtaa cabdilatiifow base waa ducaysanaa cabdilatiif baan rabaa marka hore insha allahu tacaala inaan weydiiyo
جزاك الله خيرا وجزاك شيخنا الشيخ حنفي الله سبحانه وتعالى اكو حفظي شيخنا قالقه برنامج عجلت باكو سعودت ان شاء الله تعالى دعاء انه وسوكم ان شاء الله تعالى انا سو خير دونا markaas kadib baa arrimaha kale ka hadli doona فليتفضل ان شاء الله تعالى دعاء ان شاء الله تعالى walaal badan oo ducada soo weydiistay baa jiro ee kamid yihiin walaasheena ii sheeg walaal xanuunsan sidoo kale walaal badan oo muraadiye leh oo ducaa u baahan baa jiro sidoo kale gabar walaasheena baa waxay leedahay waxay leedahay in ila taliya ma rabo laakiin walaashayna way gaalowda bay leedahay kurbana aniga way ahaysaa marka walaashaasna ilaahay inuu ii soo hanuuniyo anigana kurbadaas allah iga qaado baan rabaa bay leedahay marka ducooyinkaasi ii sheeg oo jamaca inaan isugu keen darta baan rabnaa insha allahu tacaala sheekh xanafi markaas kadibna barnaamijka aan gabagabaysan insha allahu tacaala falyatafadal insha allah falyatafadal akhuna ilaahay subxaanahu watacaala walaalaha dhiban dhibaatada ha ka dulqaado walaalaha isla sheegaayo ilaahay subxaanahu watacaala dhibaatada ha ka dulqaado ilaahay subxaanahu watacaala shidada ha ka dulqaado allah subxaanahu watacaala dulqaado ilaahay subxaanahu watacaala dhibaatada ha ka dulqaado ilaahay subxaanahu watacaala shidada ha ka dulqaado allah subxaanahu watacaala shidada ha ka dulqaado ilaahay subxaanahu watacaala dhibaatada 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 ha ka dulqaado ilaahay qof kastoo dhiban oo qolka jooga ilaahay dhibka ka dulqaado muraadkiisana u sahal الله سبحانه وتعالى مراديسا وسالو إلهي سبحانه وتعالى مرادوده 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 وسالو ولا له إلهي سبحانه وتعالى مرادوده وسالو 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 إلهي سبحانه وتعالى إيمانك كشبه إلهي سبحانه وتعالى قلبي قد إيمان يا النور يا إسلام يا التوحيد كشبه الله سبحانه وتعالى إيمان يا التوحيد يا إسلام الله سبحانه وتعالى كشبه الله سبحانه وتعالى إيمان يا إسلام يا التوحيد كشبه إلهي سبحانه وتعالى إيمان يا إسلام يا التوحيد كشبه إلهي سبحانه وتعالى مرادوده وسالو إلهي سبحانه وتعالى مرادوده وسالو خاصة ولاله إلى التلقى برنامج كان كل احتري إلهي سبحانه وتعالى تلوين وناكسنا وقدقه 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 الله سبحانه وتعالى هو ناتشي الله سبحانه وتعالى هو ناتشي إلهي سبحانه وتعالى مارت ولا الله قرآن كي دينته أساله إلهي سبحانه وتعالى ولا الله قرآن كي دينته أساله إلهي سبحانه وتعالى قرآن كي دينته أساله إلهي سبحانه وتعالى دينته قرآن كأساله الله سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير وجزاك شيخنا الشيخ حنفي الله سبحانه وتعالى ميزانك قيام الله كوسارو ولا لها اي شيء الا تلسي دمانتودنا aad iyo aad bay u mahadsan yihiin adigana miisaanka qiyaama Allah ku saaro miisaalkaada kaleetan Allah noo badiyo sheeqina qaaliga ah Allah subhanahu wa ta'ala ha inoo kala xifdiyo walaalaha qaaliga ah halka aad naga dhageysanaysaan waa qolka islaamic at-taqwa network dhamaantiin waa idin macsalaameynayna waxaan idin leenahay anagoo bahdi isku duuban sidaas iyo nabadgelyo kulanti dambe iyo jimcada wanaagsan insha Allah ta'ala wa anigu Cabduladiifa iyo Amatullah 55 oo ii fadhiisa dhanka stuudiyaha at-taqwa jazakumullahu khairan wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.